السلام عليكم ولا ليال ما هاد بان idinkaga celinaya dhamaantiin ba inaad ka soo qayb gashaan barnaamijka dood qaran qayb kamida oo aan galabta halkan ku wadaagi doona haduu ay baraali ka noqdo barnaamijka dood qaran qaybtiisaan caawa aan halkan u joogno inta aanan mawduuca looga hadlayo u guda galin waxaan rabaa horta marka ugu horeysa marti sharaftiina barnaamijka ka soo qayb gashay inaan idinkaga mahad celiyo meelaha dheer aad nooga timaadeen iyo sida aad waqtigiina barnaamijka aad ugu soo hurteen sidoo kale waxaan idinkaga mahad celinayaa waqtigii aad noo dul qaadateen aad nala joogteen inaan barnaamijka aan bilownana aad na sugayseen mahad gooni ah idinkaga celinayaa sidoo kale martida ayagana waan u mahad celinayaa barnaamijka meelo kala gadisan uga soo safray barnaamijkeena dood qaran qaybtiisaan waxaan caawa kaga hadli doonaa mawduuc xasaasi ah oo ah federaalka Soomaaliya ama nidaamka federaalka ee Soomaaliya oo ah mid ku cusub dadka Soomaalida wixii ka dambeeyay markii aanu dhuminay dawladdeena dhexe ee dalka Soomaaliya ka shaqeynaysay waxaana u dooranay waxaan dareenay in uu yahay mawduuc dadka Soomaalidu ay su'aalo badan iska weydiinayaan isla markaana ay ku kala aragti gadisan yihiin sida darteedna laga yaabo qaar badan oo dadka Soomaalida ka mid ah nidaamkaasi federaalka ee ku cusub inaysan aragti badan ka haysanin waxa uu yahay waxaan casuunay oo aan barnaamijkan ku marti qaadnay inay ka hadlaan marti sharafta hortiina fadhida oo isugu jira siyaasiyiin iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed oo aan meelo kala gadisan oo dunida ah ka kala keenay reer Minnesota inaad nasiib u yeelataan idinkuna waxaan u maleynayaa inay tahay mid gooni ah qofka ugu horeeya oo aan rabo inaan ku bilaabo si aan martida idin baro waxa weeye mudane Cabdiqaadir Cabdi Xaashi waa nin siyaasi ah oo muddo dheer siyaasadda ku soo jiray waxaana uu markii ugu dambeysay xilal gadisan ayuu dalka Soomaaliya ka soo qabtay hase ahaatee markii ugu dambeysay xilkii ugu dambeeyay oo hayay waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya ama xukuumadda Soomaaliya waa xukuumaddii hadda tagtay ee talada banaysay waxaana barnaamijka uu kaga soo safray dalka Canada marka halayla soo dhaweeyay Cabdiqaadir Cabdi Xaashi qofka ku xiga garabkan suka ayaan ka wadayaa waa Professor Axmed Moomin Warfaa waa nin aqoon-yahan ah oo laga yaabo qaar badan oo reer Minnesota inaad garanaysaan ama intiina kala gadisan waa nin wax ka dhiga jaamacad ku taala gobolka Utah ee dalka Mareykanka laftirkiisu siyaasadda kama dhex maqnayn la taliye siyaasadeed ayuu soo noqday waxaana uu mar isku sharaxay jagada dalka ugu sareysa oo ah madaxweynenimo marka halayla soo dhaweeyo professorka qofka ku xiga waa Yusra Abraar oo laga yaabo gabar aad wada taqaanaan inay tahay intiina aqoon barasho wanaagsan waa gabar aqoon-yahan oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasustay lana shaqeysa bangi kamid ah bangiyada waaweyn ee dalkan Mareykanka waxaana Yusur ay mar ahayd gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya barnaamijka waxay kaga soo safartay Columbus Ohio halayla soo dhaweey qofka ugu dambeeya ee aan doonaya martidayda caawa barnaamijka kamid ah waxa uu yahay Abukaati Cabdiwaahid Cabdullaahi Warsame waa nin aqoon-yahan ah oo sharci yaqaan ah waxaana uu inta u yimid inuu ka qayb qaato barnaamijka dood qaran marka halayla soo dhaweeyo Cabdiwaahid waad mahadsantihiin isbarasho kadib su'aasha hortiina ka muuqatay aad arkaysaan aan u dirnay ka qaybgalayaasha barnaamijkan aan weydiinay si dadka Soomaalidu mawduucan aan ka hadlayna caawa ee federaalka ay wax uga ogaadaan waxay ahayd marka aan fiirino maadaama dadka Soomaalida nidaamkan uu ku cusub yahay aragti badan aysan ka haysanin horta nooc federaal caynkii ayaa Soomaalida hadda u shaqeynaya muddadii koobnayd ee dadka Soomaalidu ay isku raaceen qayb kamid ah inay federaalka qaataan maxaa qatar oo laga dhaxlay maxaa laga filan karaa mustaqbalka ma noqon karaa mid qayb ka qaadan kara in Soomaaliya noolay mar kale dib u soo laabato su'aashaas ayaan u dirnay waxaana kooxdeena barnaamijka ka shaqeynaysay maadaama aan ula jeedadaydu ay tahay inaan wax sharaxno waxna la kala faa'iideysto dadka indhargaradkan idin keenay ay wax badan sharaxaan ugu talagalnay inaan qof walba siino muddo 10 daqiiqo ah si cilmi ahaan loo kala faa'iideysto dabadeedna waxaan guda gali doonaa su'aalaha la xiriira barnaamijkan ee mugdigu inooga jiro qofna waan u weydiin doonaa haddii aan u baahanana si wada jir ayaan u weydiin karnaa su'aasha la xiriirta mawduucan aan caawa horteena yaala
waxaan marka ugu horeysa garanay annagoo xasaanad ahaan ama xil ahaan eegaynay ama mas-uuliyadda dhinaceeda da ahaanna aan ka fiirinaynin inaan ku bilowno mudane cabdiqaadir cabdi xaashi oo ahaa wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare 10 daqiiqo ayaan siinaynaa wasiirka waxaana uu ka hadli doonaa su-aasha aan hordhignay mudane wasiir waa ku soo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadkii xafladdan runtii quruxda badan soo agaasimay oo ka soo shaqeeyay oo maaragtay maxamed Taliyaan ugu horeeyo iyo raggii kala shaqeeyay gabdhihii kala shaqeeyay waxaan kaloo jeclahay inaan soo dhaweeyo martida sharafta leh oo ka soo qayb gashay waqtigoodina soo siiyey sidoo kale saaxiibadayda aan halka isku baranay oo runtii intooda badan aan horay wajiga isaga aqoon halka isku baranay ayagana aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo barnaamijka 10 daqiiqo ama waxaan u maleeyaa bilaabanaysaa 20 bay bilaabatay waxaan isku dayaa inaan abaaro su-aasha waxa weeye laba qaybood waay bal maqlay hadda liban federalismku qaabka nooca federalismka Soomaalidu qaatay muxuu yahay way su-aasha qaybta horeysataan ka akhriyay warqadda muxuuse u dhimi karaa ama kusoo kordhin karaa nabadda Soomaaliya muxuu kusoo kordhin karaa siraaca loogu jiro nabadda Soomaaliya nabad soo celinta I think peace baa ku qoran horta federalismku muxuu yahay in la yiraahdo waa marka hore federal kalmadda la yiraahdo macnaheedu waxa weeye waa covenant waxa weeye waa heshiis luqadaha Yoonaanka iyo luqadda Hebrew-ga labadaba waxa lagu yiraahdaa heshiis federalismna waxa weeye طبعا waa dawlad ka dhalatay nidaam maamul dawladeed oo ka dhashay heshiis dawladaha kale oo noocyada kale waxa lagu abaabulo way ka dhashaan heshiisyo way ku beesgareysayeen muxuu uga duwan yahay marka federaalku dawladaha su'aasha meesha taala federalismku runtii caada ahaan waxaa loo sameeyaa in dawlado yaryar aad u yaryar oo vulnerable ah ama liita ay ku xoogeystaan yani historically contextka uu federalismka lagu sameyn jiray saasuu ahaa maxaa markii federal system la helo abuurmaha waxaa abuurmaha laba dawladood oo aan is xukumin meelaha qaarkood iska xukuma meelana ku kala madax bannaan oo isku hal dad iyo hal territory ama dhul isku mar xukuma sidee bay isku mar u xukumayaan waxay u xukumayaan awooddii baa si sharci oo dastuuriya loo qaybinayaa waxaa jira wax la yiraahdo marka awooduhu laba nooc bay noqonayaan wax la yiraahdo exclusive powers iyo wax la yiraahdo concurrent powers exclusivity waxa weeye ama dawladda dhexe oo centralka ahaa leh caada ahaan dawladaha federaalka qaata waxay ka siman yihiin dhammaantood inay qaataan awoodda difaaca awoodaha difaaca ku taxalluqa xuduudaha dalkaas ilaalintiisa in dawladda dhexe qaadato in awoodda ku saabsan siyaasadda khaarijka ama gelidda heshiisyada dawladaha kale adduunka lala galayo ay qaadato dawladda dhexe in awoodda lacag samaynta ama ilaalinta dhaqaalaha dalka qaybta lacagta in ay dawladda dhexe qaadato maamusho in jinsiyadaha yani awoodda jinsiyadaha yaa noqon kara citizen yaan citizen noqonayn yaa resident laga dhigayaa yaan laga dhigayn inay qaadato dawladda dhexe wixii intaa ka soo hara laba nooc baa loo qaadaa ama dhammaantood waxaa yeesha dawladaha regionalka ama qaar waxaa yeesha dawladaha dhexe qaarna waxaa yeesha dawladaha regionalka qaarna waa la wada yeeshaa dabcan yani awoodaha aan horay u sheegnay oo ah kuwa inta badan dawladaha federaalka ay dawladda dhexe yeelato maaha dawladda dhexe inay iska qaatay waa covenantkan sheegaynay bay ka dhasheen waxay ka dhasheen heshiiskii waa laga wada hadlayaa dad khubaraha oo mutacalimiina ka hadlaya waa yani si maslaxadda dalku uga soo baxayso dawladda dhexe iyo kuwii hoose originalka ahaaba baa loo eegayaa oo aan caadifad iyo ka bannaan maaragtay wax parochial tendencies aanay ka muuqan
oo dowladdii dhexana ay awood ku yeelanayso dowladihii regionalkana awood ku yeelanayaan baa loo sameeyaa intaa markaan ka baxano federal systemka Soomaalidu muxuu ku yimid qaybta labada su'aasha weeye jawaabteedu ma qabo aniga runtiina baxthi waan ka sameeyay waxaan rajayn doonaa inaan maalin uun ka publish gareyn doono ma leh wax adverse effect oo gaar ah ama cawaaqib negative ah oo gaar ah oo federalismku asagu federalism ahaan xambaarsan yahay ma jiro oo nabadda ama xasiloonida ama developmentka dal yani wax u dhimi kara laakiin waxay ku xiraanaysaa federalismku muxuu yahay federalismku philosophically waa benign waa system aan lahayn malignancy aan dur lahayn dhib lahayn politically dhib baa loo yeeli karaa sida hadba qolada qaataa u maamusho ya buu noqonayaa federalism waxba ugama duwana nidaamyada kale oo dowladaha lagu sameeyo oo lagu aasaso muxuu yahay marka federalismka Soomaalidu horta waxa essentially waa inaan ogaano waa federalism ku dhashay context colaadeed ka yimid ya federalism iyadoo nabad leeyahay inta Soomaalidu isu timid ay tiri markii xorriyada la qaatay oo kale ay tiri nidaamkee baan qaadanaynaa dowladdeena ku maamulaynaa ma waxaan noqonaynaa centralized system ma qaadanaynaa mase nidaam federal aan qaadanaynaa ma ahayn wuxuu ku dhashay colaad baa dalkii ka dhacday dagaal sokeeya ka dhacay ummadda Soomaalidu waa kala tagtay waa kala irdhowday dowladnimadii baa 9 sano 2004 ilaa 1991 inta u dhaxaysay waxa u dhaxaysay oo maleynaa xoogaa waxa u dhaxeeyay 9 halkaan ay 13 sano carta waxaan filayaa in ma aragtay nidaamkaas federaalka uusan si fiican isu raacin laakiin wada hadalkeeda iyo general understandingkeedu cartu ka soo bilowday Imbagatina waa lagu formalize gareeyay oo waxa lagu dhisay transitional federal government carta waxa lagu dhisay dad xustaan transitional national government TNG baa ahayd marka nidaamka federalism waa lagu discuss gareeyay laakiin la isku waafaqin transitional federal government waxa lagu aasaasay October 2004 kii Imbagati 2009 waqti 3 daqiiqo ay haray way gabadha uma bijeedin ba marka waxa way hadda waa inaan soo gaabiyo waxaan rabaa 3 kalmood kaliya inaan ka iraahdo oo soo gaabiyo 3 daqiiqo aan ku dhameeyo contextku waxa weeye wuxuu ka dhashay transition federaalka Soomaalidu dowlad civilian ah oo liidatay oo corruption badnayd oo dalka 9 sano xukuntay dowlad military ah oo dalka oo dhan gacan bira ku haysay oo taxadiyaad samaysay markii dambe waayihii dambe taxadiyaadkeedu bateen iyo gobodfalkeedu batay experience-kii ummadda Soomaalidu ka heshay baa wuxuu keenay dhinac marka laga fiiriyo in la naco dowlad centralized ah dad badan oo Soomaaliya ay ka didaan waa dhinaca philosophy-ga dhinaca politics-ka dadkii Soomaalidu unfortunately markii dagaalka suuqay u dhaxmaray oo dadkii kale irdhoobay oo nin walba tuuladii uu ka yimid waagii adduunka la asaasay oo aaday laakiin aan laga quusan dowladnimadii Soomaalida waxa la yiri war aan wax samayno meel kasta markii la tagay waxay noqotay waxa kaliya oo la isku raacay in nidaam federaal la qaato nidaamka federaalka marka contextkiisu saas waay wuxuu ku yimid dad Soomaali ah oo kala xanaaqsan oo kala didsan oo iyo dawlad dadka Soomaalida u daraatay dawlado aan wax tarin ama u wadaraa qayb ka mid ah dawladda militariga inteedii badnaa intii dambe oo dhan runtii dadka Soomaalida waxay dawlad dadku dhibsaday oo maartay laga duday oo dagaal xataa hubeysan lagala hortagay taas waa contextka Soomaalida waxa kale oo la rabaa inaad ogaataan federaalka Soomaalidu waa federal regional ama federal national ama waa federal koonfurta Soomaaliya ka jira ama wixii la oran jiray Italian Trust Territory ma federal Soomaaliya jamhuuriyaddii wixii la oran jiray Soomaaliya 60 ilaa 69kii 69kii ilaa iyo 90koodii la oran jiray Somali Democratic Republic federal ka shaqeeya ma waa federal
koonfurta dadka degaa ay samaysteen nasiib xumana waan ka baxayaa hadhow discussion ka soo bixi doontaa wixii ka soo haraa ay ku guul daraysteen inay dalkii ku mideeyaan British Somali Protectorate wixii la oran jiray oo qayb ka ahayd unionkii 1960 ama 1960kii Soomaalidu ay ku samaysay Somali Republic qaybtii ka mid ahaydna ay ku guul daraysteen inay la wadaagaan oo soo tanaasulaadkii loo baahnaa ay ku siiyaan oo dowladdii Soomaalida iyadoo federaal la soo wadaya galeelo uu ku guul daraystay marka waa federaal dhiman qaran ahaan waa kala dhiman yahay in la ogaado la rabaa waa federaal context ku yimid kan ka sheekeeyay ah dowlado dalka ka talinayay 30 sano xor ahaa oo aan khibrad fiican lagala kulmin iyo ummadii Soomaaliyeed oo dirdhay markii dambe oo dagaalantay oo isbaabiisay qabiil iyo u kala tagtay qoys u kala tagtay waa reconstructive tool Soomaaliya seel loo soo dhisaa federaal ku yimid weeye ma aaminsanay anigu nidaam ahaan federalismku inuu waa ka dhamaata leeri ma aaminsani inuu isagu in and of itself naf ahaantiisu inuu negative yahay ama positive yahay marka la yiraahdo dal dhiska wuxuu ku xiran yahay sida dad kale u sameystaan waa mahadsantahay Cabdiqaadir Cabdi Xaashi mudane sharaxaadaas aad ka bixisay federaalka iyo aragtidaada ku aadan waqtiga inaan u qabanno qofka martida ah waa nidaam nagu cusub intii aan dood qaran wadnay maadaama mabduucan uu ahaa mid xasaasi ah ayaa marti sharafta barnaamijka iyo taageerayaasha barnaamijka waxay naga codsadeen in qofka waqti ku filan la siiyo si uu uga faa'iideysto waxna u sharaxo sidaas ayaan markaa u qaadanay habka nagu cusub martida marka waa ugu cudur daaranaynaa hadalka meel macaan maraya haddaan ka dhex galno waana idinkaga mahad celinayaa laftirkiinu inaad hadalka soo koobtaan oo inta nuxur kalena aad ka abaartaan hadda waxaan rabaa marti sharafta xigtay inaan u yeero waa Yusur Abraar ila soo dhaweeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer Minnesota si sharaf la idin soo dhaweyseen gidigayo aad noo soo dhaweyseen marka aad baad u mahadsantihiin waxaan ugu mahadnaqayaa qodan qaban qaabisay forum kan qaban qaabisay oo maaragtay si wanaagsan maaragtay noo soo dhaweeyo kana marka aad baad u mahadsantihiin gidigeen Minnesota war badan oo fiican baan ka helaa laakiin it's nice to see maaragtay first hand waxaan hadda waxaad naqasheen historygii sidii ku yimiday federaalku ku yimiday marka taa kuma celinayo waxaad moodaa maaragtay dad qaarkood waxay leeyihiin federaalka waa loo maaragtay systemkii hore nooga fiicnaa in lagu noqdo waa ka fiican kii hore qaar badan waxay leeyihiin tii hore laguma noqonayo marka anigoo kale markaan xasuusto xamar markaanu yarayn haddaad doonayso passport xamar baad tegi jirtay haddaad doonayso driver's license xamar baad wax walba xamar baa la tegi jiray marka dadkii saa ku soo karay of course ma rabaan inaa maaragtay haddana central government lagu soo noqdo laakiin mid waliba system waliba xumaan iyo samaanba wuu leeyahay ya marka waxa weeyaan hadda federal system baynu haynaa sidaan uga faa'iidaysan karnaa hadday Soomaali bariya dambe isku timaado haddana bedesho waa war kale laakiin hadda federal system baynu haynaa okay so federal system ku muxuu hadda situation ka aan ku jirna tahay waxa weeye dhowr gobol baa la sameeyay gobol waliba wuxuu leeyahay madaxweyne ya marka horta wadan intaas oo madaxweyne sheeganaysa waa you know a little bit maaragtay wayara yaab way waxay leedahay gobol barbar wuxuu leeyahay cabinet fara badan buu leeyahay minister ku xigeen intaasoo maaragtay dawladda boqolaal qaarkood qaar 60 iyay samaysteen waxay leeyihiin state waliba gobol waliba police gooniye leeyahay gobol waliba wuxuu leeyahay military gobolada qaarkood I don't know gidigood wada leeyihiin laakiin military bay qaarna leeyihiin marka haddii sidaa lagu iyadoo sidaa arrintu tahay waxa dheer inaana gobol maanta isku filan jirin ya gobolada la sameeyay waxa ugu yara dhow baa laga yaabaa maxay ahayd Puntland oo leh dekad wanaag dekad for a long time lahayd airportna leh
iyaa laga yaabaa inuu ugu dhowdahay wax isku filan laakiin inta kale aanan xamarka ka baxsan tahay wax maanta isku filan ma jiro marka maxaa dhacaysa in lacagtii xamar ka tegayso ay tegayso gobolladii wixii soo gala dowladda federaalka gobolladii markay tagtana maxaa lagu isticmaalayaa administration kama dhaafayso intaasoo cabinet iyo marka lacagooda la siiyo mishaarkoodii askartii wixii dadkii gobolka deganaa maxaa u soo hadhay ya waxba soo hadhin marka weli waxaad arkaysaa because gobolna kuma filo waxay haystaan inay gobollada madaxtooyadoodu iyo madaxdoodu ay dibadaha tagaan oo ay dhaafaan bas maaragtay federal governmentkii ku shaqo lahayd arrimaha maxay ahayd ay foreign affairska ku shaqo lahayd arrimaha dibadda ayay dhaafayaan way tegayaan waxaana ku kalifaya ma aha inay Soomaaliya inay kala joojiyaan doonayaan kala ridaan doonayaan waxa ku kalifaysa duruufta lacag bay raadinayaan federaalkii kuma fila waxay soo dirayaan marka way meelo kale tegayaan meelaha kale lacag ka raadinayaan okay marka taasina waxay keenaysaa conflict bay keenaysaa moogtahay ya conflictka marka Soomaaliya dhibaatada maxaa keenay hadii aad really si fiican u baadho waxa keenay dhaqaalaha iyana nagu filayn ya ka soo qaad anjero ka soo qaad dhaqaale halkan America waxaan idhahnaa a pie but since people don't know what a pie is anjero in Soomaaliya xabad anjera yaa markaa la kala jiidanayaa qof walba wuxuu rabaa inuu yar qaato oo maaragtay maalin oo dhan qabiilkan yaa iga badnaa qabiilkan kala iga badsaday waxaas maalin oo dhan lagu marmaya mogta taasina ma dhamaanayso waxay keenaysaa conflicts bay keenaysaa balkanizationka Soomaaliya inay kala qaybsanto hadii kale mar walba ninka ugu garab weyn maaragtay iyo dee raba inuu inta ugu badan qaato ya ana ugu qabiil weyn markaan waa inaad badisa aniga waxa weyn inta yar baa la kala jiidanaya marka waxa muhiima ya ma inta yar baynu kala jiidana xabada la hooxda mise la hooxda inuu kordhinaa oo inuu weynaynaa ya ama sii badinaa ya marka laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo mid waxa weeyaan sidii dhaqaalaha maaragtay dhaqaalaha la kordhiyo ya waxaan opportunitieska ay leedahay federal systemku waxa weeye in gobol waliba uu doono inuu isagu isku filaado inuu isagu wax qabsado inuu isagu maaragtay dhismo haddii channelka si fiican loo sameeyana taa la gaari karo taa marka la gaaro marka waxa imanaysa federaalkii iyo wax walba waa maaragtay qof walba xabadii canjeera la kala jiidanayay dhowr canjeera samaysantay ma garatay ya wadanka samaysan marka taa horta dhaqaalaha in xoog la siiyo oo stateska maaragtay mandate la siiyo iyo wixii awood la leeyahay lagu caawiyo inay maxay hayday economigooda si fiican u dhisaan waa very important haddii kale weliga saas uu conflict ku soconaya arrinta kale ka hadlay waxa weeye wixii wadanka soo galay ama ha soo galo gobolada ha soo galo ama federaalka ha soo galo ya ama wax kale ha noqdo ama foreign ka yimaado dibadda ama domestic ka yimaado sidee loo qaybsanaya arrinta ugu weyn ee Soomaali dhaxtaalina waa taas weey sidee baa wixii la haysto loo qaybiya hadda maxaa dhacaya xamar baa lacag diraysa states waxa ma soo dirayaan gobolada wax ma soo dirayaan ya marka waxa muhiim ah in la sameeyo cashuur la bixiyo ya cashuur waa in meel walba cashuur laga soo ururiyo because haddii cashuur ururin weyno waligeen waxaan ku xidhnaanaynaa nimanka dibadda ee had iyo jeer aan waan soo baryaynaa mar haddaad baryo bilowdood baryo ku nooshahayna sharaf ma lihid sharaf aad leedahay ma jiro ya inba maalin madaxaba wuxuu yidhi maaragtay xamar markay madaxtu yimaadaan ima yimaadaan ya arbad kale weeyaan marka waxaan yidhi madax wadan madax banaan mani waxaan u madax banaanay mishaarkeennii dowladda oo dhan ayaa bixiya dad kala bixiya ya military police civil servants wax walba waad outsource gareysay badee wadankiiba ya waa inaad adigu isku filaataa as much as possible ya adigu waa inaad isku filaat marka isku filan tahay ya
markaa dadku sharaf bay maaragtay ninka isku filanaya ninka aan isku filanaya miskiinka akay baa la jeceliyaa waa human nature wey marka in horta taxka cashuurta la ururiyo wey cashuurtii ha la ururiye sida loo qaybinaya markaa statesku markay cashuurta ururiyaan sidee bay u qaybinayaan systemka aan garanayna ee federaalka ugu fiican ee shaqeeya waa Mareykan oo maaragtay no matter what aad samayso meeshaad joogto local tax baad bixinaysaa state tax baad bixinaysaa federal taxna waad bixinaysaa marka dowladda federaalka nafteedu waa inay ogaataa haddii ay dadka shaqaaleeyaan oo gobolada caawiyaan oo gobolada dhaqaalahooda dhisaan lacagta soo galaysa federaalku way badanaysaa marka lacag markay soo gasho lacagtaasi federaalku maxaa lagu samaynayaa si transparent ma loo isticmaalaya marka la bixiyo kharashka ama militariga ama foreign affairs iyo waxaan federaalku ku saabsan tahay lacagta soo hadha sidee baa stateska loogu celinaya states waxa jira soo bixi doona stateska kale ka lacag badan marka dawladda federaalka shaqadeedu waxa weeye inay state gobolada liita ay caawiyaan lacagaha ay meelaha kale ka soo qaadayaan caawiyaan marka taas waa taxki weeye midda labaad ee aad u muhiim ah waxa weeyaan resourceska yani waxa ku jira khayraadka wadanka ku jira sidee baa loo soo saaraya sideena loo qaybsanaya maanta ilaahay wuxuu siiyey Soomaaliya khayraad fara badan badii baa khayraad ku jira barigii baa khayraad ku jira petrol baa yaala minerals baa yaala waxaan leenahay capital fiican waliba on top of that waxaan leenahay dad fara badan oo maaragtay wax bartay oo maxay ahaydey hadday wax barteen iyo haddayna wax baraninba haddana maaragtay entrepreneurs oo maaragtay wax soo saaraya baan leenahay mogta oo wadanka haddii aad chance la siiyo oo fursad la siiyo wax weyn soo saaray baan leenahay marka khayraadku wuu badan yahay khayraadka hadduu badan yahay sideeba haddaba loo soo saaraya marka horeysa soo saaridiina waxa ka horeysa sidee loo qaybsanaya ka soo qaad Kismaayo iyo petrol heshay petrol kama Kismaayo leh Mr. Federal Government kale ma Kismaayo loo deynaya Mr. Federal Government ka yaa oranaysaana kale haddii la yiraahdo Kismaayo ha yeelato oo iyada petrol kale soo saarayso waan caawinayna soo saara sharcigaas lagu isku raacay sidee baa looga soo qaadaya lacag ay wadanka intiisa kale loogu qaybiyo ilaan wadanka oo dhan baa iskale at the end of the day wadan waan nahay wadankaasi markaa see loo gaarsiinaya gobolada kale aan lahayn zero time marka waxaan leeyahay yani taasi aad muhiim ah taa haddii la sameyn waayo oo la soo saar lagu heshiin waayo sida wax loo qaybsanayo weligeed la soo saari maayo waxba weliga waxa leeyahay Soomaaliya baa wax heshay way naxadayaan hebel baa kan keenay uu naxadayaa kan kala kan keenay uu naxaday wasaasan waa inuu jira sharci la isku raaco khayraadka ama sidii kalluunka bariga dhowtan looga hadlo marka taasi waan ka wada hadli doonaa laakiin waxaan u haystaa haddii dhaqaalaha la kordhiyo haddii tax la qaado haddii gobolada aad loo maaragtay xoojiyo oo inteera la isku haysta la badiyo xanshiradaas si fiican loo badiyo lagu heshiiyo saan wax u qaybsan lahayn marka waa wax khayraadkii inoogu jiray badda iyo barigaba waa la soo saarayaa gadigeena waxaan noqonaynaa Sacuudi Arabiya iyo Dubai waxay noqon doonaan bikhbay noqon doonaan innaka ka badan doona Yusra waa mahadsan tahay sidaas uga hadashay caqabada dhinaca dhaqaalaha marka laga hadlayo hirgelinta nidaamka federaalka waanan kaaga mahad celinayaa sidaad u soo koobtay kolla waa adag tahay in la qabsado qofka waqtiga loo taagayo marka waanu ku qasbanahay marka waa idinkaga mahad celinaya intiina hartay inaad sidaas oo kale aan idinka dhexgeli doono waxaan rabaa inaan ku xijiyo si aan waqtiga uga faa'iideysano Professor Ahmed Muumin Warfaa ila soo dhaweeye waxaa mahad iyo ammaan oo dhan kulansada Allah subxaanahu wa ta'ala marka labaad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo naxariis korkiisa ahaato
marka saddexaad waxaa bogaadin iyo dhiirigelin mudan intii arrintan fikirtay abaabushay soo gaarsiisay heerkan quruxda badan marka afraad ma sii wadaa hadda dadkii na cazumay oo na soo dhaweeyey oo annaga la yiri 10 daqiiqo hadla waa noo camiran maaragtay ayagana waa mahadsanyihin ma haddii aan intaas ka gudbo caalamka aan ku noolnahay saacaddaana wada hadlayno waxaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa xubin ka ah 193 dal baa xubin ka ah 193daas 165 ka mida waxay haystaan dowlad dhexe oo kaligeeda oon sarrifnayn bay haystaan 28 dalne waxay haystaan dowlad dhexe iyo dowlado ka hooseey haystaan 28daas dal oo sarrifan oo loo yaqaan federal waxaa ka mid a meeshaanan ka hadlayno dalka haysto maraykanka bal adiga maraykanka waxaad tidhahdaa waa dal xun oo federaalku dartiisu u xun yahay balde adiga waa kaas ma dhihi karti germany soo qaado germana xun maad dhihi kartaa hadda aniga xagga dhaqaalaha xagga horumarinta xagga farsamada ma waxaad dhihi kartaa canada miyaad dhihi kartaa ma waxaad dhihi kartaa australia miyaad dhihi kartaa yacni 28ka dal waa dalalka ugu qanisan ugu horumarsan xagga dhaqaalaha xagga bulshada xagga aqoonta xagga adeega xagga dadnimada dadku ugu sarreeya waa sidaa daraaddeed federaal xun u fiirso federaal xun ma hayna annaga laakiin waxaa xun meesha laga dhaqan gelinaa federaalka baa xun federaal maxaa loo yaqaan waxaa loo yaqaan waxna aan isku darsanno waxna aan kala lahaan sidoo wasiirku sheegay 4 qodob oo muhiima baa la isku darsanaa waxaa la isku darsanaa arrimaha dibadda laakiin waxaan haynaa Soomaaliya federaal la leeyahay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka dibadda la leeyahay oo maamul goboleeda marka federaalka adiga xumaynaysid saddex ciladaadna ku xumaynaysaa kow horta marka hore aqoontaa kugu yar oo federaal wax la yidhaah baan ku bilownay haddii wax ku bilaaban yihiin waxa kaa maqan niyada qalbiga waxa kaa maqan ikhlaas inaadan inta yaroo taqaan aadan xataa barakeysanayn baa kaa maqan marka saddexaad waxa kaa gashay wax halkaas la mariyo dibnaha oo waxaad maqashay 1.6 bilyan baa Belgium laga ballan qaaday marka adiga xogaa muqbadaasaa kaa gashay meesha laakiin aniga intaan adduunka socday 46 sano adduunka socday federaal xun ma maqlan aniga mana soo arag Soomaaliya maxaa dhacay Soomaaliya waxay maqleen federaal hal qaato waata laakiin federaalka intaan la qaadan maxaa la isku ogaay waxa la isku ogaay federaalka in kor inta laga dejiyo dadka si loogu adeego tuulada la geeyo tuulada laga soo raro degmada la geeyo gobolka la geeyo dadku say isu rabaan isu tagtagaan dalkaanan joogno oo federaalka ah meesha la yiraahdo California waxa joogta 43 milyan qof baa joogto oo federaal ah waa gobolka ku xigana waxa la yiraahdaa Nevada waa la diris 500 kun oo qof aa joogto adiga yaa ku dirsaday inaad tiraahdo labo gobol iyo ka badan yaa ku dirsaday adiga ku dirsaday yaa ku dirsaday adiga waa qodobka labaad yaa ku dirsaday adiga wareegta inaad qorto tiraahdo labadaas gobol aan isku daray labadaasna waa kala celi labadaasna yaa ku dirsaday adiga gobolka aan ka imaaday oo la yiraahdo Utah 45 sano ay ku qaadatay inuu federaal ka noqdo Mareykanka laftiisa dadku waxa leeyahay wada hadla waxaasi ceelasha biyaha isku noqdo alale laakiin waxaan haynaa gobollo oo war to whom it may concern yani warqadii la qori jiro kale waa federaal marka annaga xumaynayna federaalka
federaal xun anagu ma hayno federaalku waxaa lagu dhisaa 3 shay anigu waxaan ku jiray dadkii bishii luulyo 1991kii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa aqoon-yahaniintii xirfadlayaasha isugu yeertay tiri Soomaaliya waa burburtay maxay idin la tahay maxaa sidee dib loogu dhisi karaa 31 ruux aan waxaan fadhiisanay Victoria caasimadda Seychelles markaan isu tagnay waxaan wada dalkii Soomaaliya naga burburay wuxuu haystay nus milyan ciidan oo haystay 500 kun oo ciidan oo haystay waana laga faramaran yahay maxaa yeelnaa waxaan ogaanay waxa gadaal u istaagay inay yihiin shicibka ilaa anagu waxaan u haysanaa madaxweynaha inuu madaxda dalka yahay ilaa waxa madaxda dalka waaba shicibka marka 500 kun qof waa laga farxash markaan isu tagnay waxaan niri warkaale dadkan muxuu ahay wada cagcad oo iska feer qaawan oo iska ordaa guryaha jabsana maan amar siin wayno aan dhihi wayno ciidankii mar kale dib loo soo celiyo annaga is weydiinayna Soomaalida cid kale nagu ma jirto waan gad wayna arintaas waa beecan weyn sida wasiirku sheegay wareegtadii muxuu ahay ii sheeg oo Yusuf sheegtay lahayd wareegtadii xamar ka baxaysay oo baasaboorka lagu soo doonanayo waa gad weyna waxaan niri marka kale confederal amal ma qaadanay sida Lubnaan oo kale oo dawladnimadu qeexan tahay oo la leeyahay wasiirka koowaad waxa iska leh muslim sunni ah cid kale oo qaadato mal madaxweynaha waxa qaato nimanka muxuu ahay masiixiga ra'iisul baarlamaankana waxa iska leh muslim shiica waa go'an tahay saas maan sameynaa waxaan waynay Soomaali koonfur iyo waqooyi loo qaybiyo oo ama muslim iyo gaalaha waa waynay waxaan waynay kuwa cadaan iyo kuwa madow waan waynay waxaan waynay kuwa af Ingiriis ku hadlay kuwa Soomaali ku hadla waa waynay Soomaali wada caata in fiiqan oo qaylinaysa markaan diinay marka waxaan niri ma sidaas ma hal federal yaa la qaadan laakiin hal la furfuro annagu furfuridii aan isku ogeyn furfuridii wixii ka dambeeyay marka waxay noqotay in dadka la dhaxday inta uga soo biiraan ay federaalkii noo dacareeyaan laakiin federaalka hadda maxaan haynaa hadda federaalna haynaa annaga ha xumaado ha samaado wax kaloon hayna male marka aniga reer koonfur ahaan muxuu ahay erig mahmaaha jiro leeyahay dibigu muxuu ahay hardigna waa ka gudbay hogna ma gaarin yani waxaan ka wadaa dawladii dhexe xoog lahaydna waan ka imaanay federaalka la yaqiin nicmadiisina weli lama gaarin sababtoo maxaan haynaa waxaan haynaa xildhibaan laga soo doortay maamul goboleed laga soo doortay oo xamar loo soo diray oo aan mushaarkiisa la soo raacinay oo xamar yaa ku biila xildhibaankan federaalka yaa ku biila oo weliba la leeyahay qaarkood xataa xoogaa yaraa ka baxay xataa la leeyahay uu maadan xildhibaan lama rabsaan sadaradeed waxa la rabaa muxuu ahay federaalka hadda isagaan haynaa wuxuuna ka dhigan yahay sidii muxuu ahay gaarigii laga hormariyay dameerkii jiidi lahay oo federaalkii oon degsanayn oo aan dastuur lahayn oon xuduud lahayn oo dawladda dhexe iyo dawladda gobollada waxay ku heshiinaan aysan lahayn sidii Yusuf u sheegtay baan isigaan dhaqangelintan ku bilownay waxaana ku xalinay wareegto baan ku xalinay haddii marka hadda federaalka aan sii kicino Yusuf dadkay sheegaysa ilaa iyadu waa qof oo dhaqaalaha yaqaanay intaasoo kun oo ciidana oo maamul goboleedkan hebelkan lama hebel yaa mushaar siinaa 6 madaxweyne yaa mushaar siinaa sodomeeyo wasiir oo maamul goboleed yaa mushaar siinaa yaa mushaar siinaa muxuu ahay ciidanka ilaalin marka xogaa xiriirigaasaa jira maahane laakiin waxaan ka cabsanaa sidaan u soconno inay maalin istaagto sababtoo dadku waxay leeyihiin sidaan rabo ma yeesho ma soo diiday waan goosta anigana bisha ku xigto 30 maalmood waa socdaale saacad ma dib u celin karnaa may waa 30 maalmood wuxuu ku leeyahay iskariga wuxuu ku leeyahay 30 maalmood waa dhamaadeen madaxweynuhu waxaad rabto ahaabal mushaarkayga aawo Nairobi aan tagaa meel leedahay ma leeyahay sidaa dalaad xoogaa yar waxaan ka qabaa in inta hadana la fog ilaa waxa jira federaal hadda ka hor qaato liira gaana waa taqaaniin ay la tahay sidoo kale federaal qaateen 6 sano ilaa 7 sano hore gadaal wadeen markii ku wareeray waxay leen gacanta ka taageen hadda waxa ku noqdeen dawladda dhexe ku noqdeen sidaas aan xoogaa ka waruursanahay maahine haddii federaalka la qurxiyo
maxaa lagu qaaday sida wasiirku u sheegay nabadgelyan lagu qaaday maanta dagaal hadda iska soo horjeedo reeri la sheegay muxuu ahay ma hayno marka macallin loo gaaray loo taagay zero balance hadalkiisa muxuu ahay su'aalinaha idin socda waa maasantiin بروفيسور ورفا waxaan rabaa inaan maadaama xildhibaanada soo qaaday xildhibaanada hadda waxa nagala jooga maxamuud cabdiraxmaan beene beene waxa uu ka tirsan yahay xildhibaanada qaranka asagana ilka casaan nala jooga waxa weeye xildhibaanada hore ka tirsanaa marka labadina waa idin mahad celinaynaa maadaama mas'uuliyiin qaran aad tihiin waxaan rabaa inaan martida ugu dambaysa aan u yeero kadibna waxaan geli doonaa hadduu ay barraali ka noqdo su'aalaha oo aan idinkaydi siin doono martidana si toos oo wada sheekaysan doontaan hadduu ay barraali ka noqdo marka waxaan rabaa inaan u yeero abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ah qofka ugu dambeeya caawa masraxa ka hadli doona marka waa ku soo dhaweynayaa عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت وحنا مهد علنا هي محمد طلياني خيارتي برنامج كان سوا بشيء دوت قرن يورا لها إيجال قيب قلها دوت كأودينس دوت وداق عنها هي. وحنا رأى أنت أنا المشكلة ده فدراليزم كإنه حيا إنه في عينها أنكلين وحي ركور دعه مشكلة ده الكينا أنا وسيد أنا أركاي برسبكتيف كوحوك إلى أي هي. صدق وحيا بود بس بربر صعدة. هرت دل كان مشكلة دينية وإنه أنا هاي سنة تيروريزم إنهين لكن أفكار صعدة ودلك الإسلام كان لو وداقنه فهرت قيب وين كأ لكن وعدنا جرينا نوحنا أركينا ويلتوجا أو دورك قلي أو تيروريست أبين وهاي سنة لكن فلسفة وين أدون كنا كسعته أو كل دون و the west and the east لمن كان إسلاميست قليله وكدالي هنانكي وستجا ورنتي بقول سنة الله دريمي إنه سن واحد benefit of the society الإسلام كهزينين إيوه وستجا أو كوري أو أسوق قبه دوما نسيج الدنيا إنه وضع سان قاد أنا قبنا إن فير كيهين سيدا يو أركيان يو دين تيو سيدا يو المحيو تودي بواكتجين تان إسلام نعيم معها لكن فلسفة دان دين تورن أي دين بهرت إن من كدير رأي قيب كيين دل كأننا مشكلة ده سوا قيب ما سأدرس كرينه إيوه مشكلة كلا أو دعدي أو بربر كي دولة نمدينا أما سانقات كي كوباد الدولة نمدينا مركي لحدن كي بعبورنتي طبعا شد لحدن كعبورنتي وشرته وهنداول له هلين مركي كرتي أو كرتي أو كرتين رر يعلى يسكن نقطي دولة نمدي مركي دمبنا عينك وجويسي دولة النمدي إيوه نظام كان هذا عن كان سنة أو فدراليزم كو أسوي روحي إنه عصب أو إنه عرور أحدنا mode of governance وأنا عن قبل the best system وبني آدم هلا أنا وحن قبل قف أهان إنه فدراليزم حيل قف ليري تشو قريجاجا أو تشو I don't think يصير ورفع الشيء وحنا نيتاي لكن sophistication كيسا ملنا هاي وحوي adversary systems وحوي وديليما وقروح وفيري روماتيك in system جديدا هدنا وضع شقية it's the virus بين آدم كشركي سوى حكو شروي فيري إذا قروح بيوتي شركينا فيروس كسيد ولا دري ريو دالع نازل كاس أن لقب حينين هدنا يهلو السعودة culture كينا يهنان كينا way of life كينو وحان لينا إنه كل شيء هاي فدراليزمكو example بان إذن شيء وحال إلى إثيوبيا وفدرال دولها أفريكان قلنا نيجيريا وفدرال نيجيريا 54 كيبا إنجليز كوسمي حرية دمركي قاتنا فدراليزم كان القليل هدي لبداس دولدود إثيوبيا يا نيجيريا هدي سعيدا حق لهين فدراليزم كذا وح اسكو هي عيدا كاسكو هي حوزة اسكو ما هيسو إبويا إبو اسكو ما هيسو وح اسكو هي exclusively military أي وحية very effective أو وليبا إثيوبيا سيدو كله مو ملان إنسان إثيوبيا مركي درجو ودعي هدي
Somali Ogaden oo aan ognahay mushkiladda regionkan saldhig inay u ahayd hadday organizer ahaan lahaayeen ama ciidanka hadda ay leeyihiin new police-ka ay lahaan lahaayeen qofna kama horjoogsadeen inay self determination-ka ay raadinayeen ay galaan laakiin waxaa dhacday nasiib Ethiopia waqtiga uu hiiliyay ciidanka jira oo federaalka oo militariga ah oo maalin walba room garaynaya dalkeena ayaa Ethiopia isku haya ina ilay iskuma hayo choice uu federaal asoo ku galay malahan waxaana la yiraahaa iyagu ay u sameysteen oo inaga xataa inuga reason duwan yihiin ayaga notionkii ahaa self determinationka oo qowmiyada dalkaanu ahaa yay waxay u fasirteen federal system oo yiraahan qofka Soomaaliga af Soomaaligiisa ha dhigto dhaqankiisa ha ilaashado diintiisa ha wato laakiin nuxurka jiraa waxay tahay biliiska haddaad ogtihiin dalka Ethiopia la yiraaho biliisku waa federal meel kasta uu joogo jigjiga biliiska jooga waa federal Nigeria biliisku waa federal maxaa yeelay midnimada baa loogu gabanayaa in lagu ilaaliyo way fahamteen ciidanku waa inuu helaa a reason uu ku geli kara meel marka waxaa la territory-ka iyaga xirtay haddaan u soo noqdo marka federaalku waa xun yahay I don't think that is the point waxa weeye can we handle it anigu ma qaba inaan handle garayn karo very primitive very primitive mode of way of life baynu ku jiraa computerada waa aragtayna chipka hadduu qofka chipka waa la upgrade Soomaa aqoontu marka upgrade may qofka siisaa society-geena 90% waxa weeye waa illiteracy sophistication-ka uu leeyahay ma wadi karaa maya ana waxaan qabaa aad waxa ugu dooda Puntland baa ugu dooda federaalka waanan garan karaa culayska meeshu ka imaanayo oo ma dhinay garanayo roolka ay tahay Jubaland xaalad bay ku abuurantay meesha la yiraaho Koonfur Galbeed xaalad bay ku abuurantay tabashooyin baa iska jiray afar waxyaabood oo ina haysata federaalka ma galay aad u gali maayo maxaa yeelay waa system jiro fiican laakiin bal inayna wax ka hormarino afar waxyaabood baan waxaan ugu yeeray garay ma ka baxdaa ninka kalena uu leeyahay adiga ma ku gashaa oo Soomaaliya hadda dhex taala ana waxaan qabaa from gaalkacyo qabiilkan hawiyaha la yiraahdo intuu dago ilaa lagu soo gaara xamar tendency-ga thinking-ka ma ka hadlaaya dadka siyaasiyiintan ka hadlaaya qabiilada yani ulama jeedo inaan qofna u fund gareeyo thinking-ku waxa weeye dawladdu waa naga duntay institution-ka aan soo celino dawladnimada aan soo celino absolutely way ku saxsan yihiin culays badan uma arkahayaan wax kale institution-ki dawladnimadii institution-ki biliiskii nabadii aan keenno ciidan aan samaysano ayaa ciidanka u samaysanaysa aad u dhageysta hadalkayga Puntland dadka ka soo jeeda maxaa yeelay dadkan daaroodka la yiraahdo ayaga hadda ugu wasni weyn oo dhul territory marka la yiraahdo fikirku waxay tahay war meeshan waa la igu dulmay mushkilad baa dhacday anigu institution aanan hubin markii horena aan dumiyay I'm not going to support ma dhisnayn institution-ka inaga hakranayna institution-ka xamar inuu hana qaado xogag inaga mid aha jiidaayo oo tabasho qaba marka waxay qabaan intaan institution-ka la dhisin aynu galo reconciliation u fiirsada nin kastoo daarooda wuxuu ka hadlaa reconciliation aad u fiirsada hawiyaha kuma badna eragaasu yani we have to talk in a plain language maxaa yeelay dalkeennii baa qalan ninka digliya mirifka ah wuxuu qabaa 4.5 Soomaaliya maantay ugu cadaalad badanta aad u dhageysta wuxuu qabaa maantay Soomaaliya ugu cadaalad badanta waqooyi oo dirta culayskeedu isaaq iyo halka u badan yahay waxay qabaan the whole south ko dhanba mess up tihiin we fed up
afartaas doodood afartuba waa legitimate mid khaldan ma jiro fundamentalna problemkeena halkaasuu fadhiyaa laakiin see loo kala horumariyaa way afartaas if I were Mogadishu anigu haddaan xamar joogo the winneriska qofka fiiri qof baa isu haysta winner civil war baa dhacay civil warku waa inuu winners iyo losers leeyahay in a sense militaristic in a sense not politically wuxuu qabaa institutionka ma dhismaayo waa in laga hormariyaa marka waxa isu dhow labadaanu bal inta aan lala dhilgarayn 4.5 iyo mushkiladan waqooyi waa in la galaa oo la yidhaahaa labadan force they have to reconcile each other ninkan ka baqaaya oo oranaya war aniga meeshaan waa liigu dilay war anigu meeshaan dhibaan waa qaxay waa kufay ma deny garan kartid wuxuu tabanayo ma deny garan kartid we have to talk Somali elitists they have to talk very honestly this is our nation haddii kale waxa weeye maskaan ma ku jirnaa federal is not going for the issue federal maaha wax yar baan $5 baan kaa qaadanay raalla anaa isa siinaya war ma igu darteen federaalka marka hadda jira oo walaalkay wasiirku hadda ka hadlay anigu reer xamar ma ahay hanti waa kulahaa gurigaygii waa tegi waaye mana isku dayin inaan aado ishuguna guri ma ahan ishuguna dhul ma ahan dalkaygii oo dhan baan waaye wallaahi billaahi tullaahi waan ooy xamar ilma igati 2014kii prime minister baan doontay xasan sheekh waqtigii ina cabdirashiid uu raadinayay ahayd I cry dadkii ardada kula ahaa your classmate gabdhihii sharafta lahaa dhafoorkooda iyo gaajada ka muuqata hadaad arko ad yaabaysa it was very emotional waxaasaan ka hadlaynaa innaguna waxaan taaganahay gabdhaha halkaan maraya haddaa ujeedeen ma aqaane gabdhaha beereyd ku lahaa quruxdooda iyo temptation kasta desire kastaa kuu qaban karay laakiin rag baa ilaashaday rag baa ilaashaday innagana kuweennii meel walbaa lagu reeb garayay meel walbaa lagu dilay aniga waxaan qabaa gidigeen baa dulman dalkan maxamed siyaad ma dumin I have to tell you very frankly waan aqaan anigu maxamed siyaad dalkan dad buu ka hortaagnaa maanta hargeysa burco baydha berbera 19% baa Ethiopia laga siiyey for what markay garantor bay u tahay carabta ku dulaalaysa haddii la damco contractyaas in la jabiyo Ethiopia garantiirka dalkan we should not blame each other inagu naga dume haddaynan u kicin Mohamed Farmaajo anu waan aqaanaa qof ahaan he's my cousin he's a very nice guy lakin he cannot do anything he cannot do anything because complexity meesha yaalaaho is not aniga askaran problem keena askari mushaar la siiyo ma aha it's not problem keena xafiis subaxii 8 soo saac prime minister ku leeyahay 8 saac ima iyo 4 bax ma what hadaad fadhiid maanta dhan baad durduuriyaysa laakiin miyaad socota fundamental changes we have to go fundamental changes waxaan galaynaa su'aalaha barnaamijka hadduu ay barnaamij ka noqdo waxaanan ugu talagalnay
martida barnaamijka way tiro badan yihiin sidaad u jeedaan ma awoodi karo inaan qof walba su-aal siino intiinana waan idin wada jecelnahay taageerayaasha iyo saaxiibada dood qaran ayaa tihiin mana awoodi karno waan ka cudur daaranayaa taas su'aal koobanaan qabaa oo ah maadaama federaalka hadda laga doodayo waddankan maraykanka aan joogno berigii hore waa ku isku day inay sameeyaan wax la confederate u shaqayn weysa hadda federaal caadi ay qaateen dalka Switzerland sidaas kale waxaa ka jira federaal iyo wadamo kale adduunka ka mid ah weli ma ayna arkin waddan oo federaal oo haddana madaxweynayaal oo madaxweynayaasha isgarab yaacayaan yaa noo dejiya federaalka hadda socda nidaamka uu shaqeeyo ah in madaxweynayaal la sameeyo maxaa looga dhigi waayay gudoomiye gobol maxay madaxweynayaal ay u noqdeen maxaan ugu yeernaa madaxweyne su-aashaydu waa furan tahay qof walba ka jawaabi kara magacaygu waa Faisal Diiriye su-aashan qabaa waxay tahay dowladaha kale ee federalismka qaatay waxaa ka mid ah Nigeria iyo Ethiopia iyo dalalka noocaas ah federalismka ay haystaan wuxuu yahay mid ku salaysan qoomiyad innaguna keenu wuxuu ku salaysan yahay qabiil yani intii qabiil isku qabiilaba hays raacdo marka dhibaatada ay keeni kartaa intii isku qabiil hadday is raacdo inta qabiilka xooga badan inta kale qabiilada yaryar ku sii hoos nool dhibaatada ay u keeni karto maxay tahay waa maasantahay labadaas su-aal baan u daynayaa wasiir maxaan ku rahaa madaxweynayaasha waa su-aal mashaakil badan dhalisay way aniga waxaan isku dayay inaan runtii the letter of the question aan ku koobo hadalkayga runtii mashruuc mawduucna mawduuc u baahan runtii tafaasiil badan iyo hadal badan way xaqiiqdii haddii la rabo in laga gungaaro aniga waxaan qabaa waxaan isku dayayaa political scientist baana sida theorieska political science oo federalismka iyo yani literatureka laga qoray oo aad u ballaaran iyo marka la isticmaalay federalismka adduunka meelo badan oo kala duwan oo warfaa meelo badan oo ka sheegay horumaray meelo badan oo dib u dhac badan ka muuqdana ay ku jiraan waxaa laga dhaxlay marka la fiiriyo waan isku dayaynaa inaan uga jawaabno waxaan idhi federalismku isagu waa qaab dowlad loo agaasimo wey mana xuba mana fiicna waxay ku xiran tahay ragga dadka hadlayna qaarkood way yidhaahdeen sida laga dhigay ku xiran tahay annaga contextka federalismka inuu soo galay runtii sida ugu fiicneed maahay wuxuu ahaa dad kale dhoobay oo diriray oo qabaa'il oo reebaadiye ah oo markii hore reebaadiye ahaa dowladnimada ku cusbayd aan maxaan ku rahdaa leadership fiican helin ilaa maalintii dowladnimada heleen dowladnimada shaki ka qaba oo stateka iyo societygu si guud u kala irdhaysan yihiin oo maxaan ku rahdaa societyga dhexdiisii ama bulshada reedka dhexdeedii kalaan u kala qaybsan tahay marka wax u hiilinaya oo maxaan ku rahdaa state centralized oo fiican oo xoog leh aniga runtaan idiin sheegaya haddaan idiin sheegaya dhammaantood idiin sheegaya waxaan ka jeclahay ma jirto dowladda Soomaaliyeed oo xoog leh oo adag oo hal meel laga xukumo oo hal madaxweyne leh oo hal baarlamaan leh oo hal prime minister leh oo waddanka oo dhan ka talisa laakiin maxaa weeye maxaa taa hortaagan waxaa hortaagan nin mutacallim ah aad uga hadlay arrintan oo ayaan dhawaato qolo kale hadlaysay qaar baa ka hadlay waxaas theorieska marka laga hadlayo nin mutacallim ah aad uga hadlay federalismka wuxuu runtii waxa ugu qiimaha badan way dadka qaarkoodna reconciliation ay ku sheegeen ma daarood baa jecel maxawiye baa jecel madir baa jecel ma digli baa jecel waxaas waa another issue laakiin wuxuu yidhi waxaa jira wax la yidhaahdo trust trap waxaa la ninkaas dadka baxsiga samee u sheegay waxa la yidhaha Richard Simeon baa la yidhaha SIMEON wuxuu yidhi trust trap wax la yidhaha jira trust trap maxaa waaye waxa weeye federalismku wuxuu u baahan yahay is-aaminaad wuxuuna ku yimaadaa kala aaminaad ammaanadii oo baxday oo dhuntayna waa lagu keenaa si uu u hirgalana wuxuu u baahan yahay ammaano badan in la is-aamino do you understand what I mean marka mushkilada horta weeye maxay marka u baahan tahay waxay u baahan tahay dadnimo iyo ka shaqaysiin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay reconciliationku waa ka mid weeye waxaa kaloo ka mid haddaan la reconcile garayn xataa oo si pragmatic wax loo qaybsado oo real politic wax la yidhahdo loo qaybsado waxaa loo baahan yahay in si dadnimada loo wada hadlo ragnimo lama oran karo hadda in longer waxa waa dagaal wey in si dadnimada loo hadlo oo si sincere ah si ku jirto niyad sami ku jirto laakiin runta la isu sheegayo la soo wada fariista miiska la yiraahdo maxaa dawladda inoo noqon kara dal baan u baahanahay dal adag baan u baahanahay dalku waxa loo baahan Soomaaliya waxa loo baahan dawlad xoog leh loo baahan aad xoog leh
oo marka dowladaha kale iyo caalamka kale ay la macaamilayso dowlad xoog leh waxaa haddana loo baahan yahay dowlad aan dadkeedii u xoog badnayn oo dadkeedii baabi'inayn oo dadkeedii duminayn dadkeedii ku tumanayn balanskaas muxuu ka soo baxaya wuxuu ka soo baxayaa tawaasunkaasi in la wada hadlo soomaaliya lagama negotiate gareen federalismkeeda si fiican loogama negotiate gareen intii isheli kadhay baa ka negotiate waan idiin sheegayay dalka laba maamul baa sameeyey mid baa maqan ba dhammaantu waa maqan yahay annaga hadda dowlad baan iska dhiganaa dowlad maahayn xaqiiqada aan idiin sheega qof soomaaliya oo wax yaroo damiira leh oo soomaaliyama yar ku jirdhaa ma iska dhigi karo inuu dowlad soomaaliya jirto ma jirto waxaa jirta dowlad qaybaha jirta qayb soomaaliyaha maqan british somaliland baa maqan waxaa maqan oo republic of somaliland sheegata oo hadda wax ka qaban kara aysan jirin anigu wasiir baan ahaa magaceedii waa wataa ra-iisul wasaare ku-xigeen baa jooga guddoomiyayaal baarlamaan baa jooga laakiin halkaasi joogtaa maba ku ahibay kulada federalismkii waxay u baahan tahay in uu noqdo mid one that can reach out to somaliland british somaliland oo power sharing xaqa la samayn kara marka waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo madaxweyne macno male waxa la yidhaha please don't get stuck semanticska maaragta waxa la yidhaha ha ku dheginina madaxweyne iyo governor iyo hogaamiye iyo chief iyo kaaba qabiil wax kastoo loo bixiyo wax macnaa male federalismka hadda meesha ka jira dad baa waxay yidhahan waa kalaan federalism it's true it is absolutely true waa kalaan federalism qofkii yeela ha yeelo qofkii dida ha yeelo run weeye qabiil baa la isku raacay puntland hal qabiilaa degaa galmudug hal qabiil baa degaa minorities baa ku dhex jira waa xaqiiqa jirta weeye puntlandna minorities waa ku dhex jiraan jubbaland qabiil baa u badan qabaa'il baa u badan maybe waxa weeye waa isu dhowdhowdaha laakiin waa loo badan yahay qolaa u badnaan ka dha banaadir state haddii la sameeya caasimadda dad baa u badan hirshabeelle qabiil baa u badan digil iyo mirif maxaan ku radaa south west digil iyo miriflaa degaa ama u badan waxaa la rabaa baarlamaankii aniga aan ku jiray hadda oo hadda dhammaaday aniga iyo aan ka baxnay saaxiibkeenu soo galay wuxuu sameeyey waxaa la yidhi u dhashay anigu waa maqnaa waxaan ku faraxsanaha bannaankaan jiray kama foodin ilaahay beri baan ka ah wuxuu yidhi citizen qofku wuxuu yahay meesha inuu u dhashay maaha inuu ku dhashay maaha waa khayaano qaran waa treason wey waa treason wey runtaa idin sheegaa nin baa maraykan ka hadlay run waaye professorku wuxuu ka hadlaa maraykan buu ka hadla maraykanka federalism baa ka jira the best federalism on earth baa ka jira ya annagana kaan u sacyeyno oo rabno inuu aan gaaro kan oo kale wey waa kan jarmalka oo kale waa kan maaragtay uu sheegay waa mid qofku dowladduna aysan obress garaynayn hadda waxa weeye puntland baan yiri waa u dooduu yiri puntland anaa ka yimid wasiirna waa ka ahaa waana ku faraxsana waxa weye puntland dadka joogaa waxay ku doodayaan waana run wey waxay ku doodayaan markii dowladda jirtay horumar maana heli jirin waxba maana heli jirin way inaan ka dhex galo ku xumaa soo koobo macalin wasiir waxaa la rabaa dowlad dhexe oo dadkoo dhan u siman oo citizenship based rights ay jiraan inta la helayo ya haddii inta la inaan u sacyino waay aniga run waxaan qabaa oo iga dhaba oo aan dhammaantiin idinku boorinaya in loo sacyo dowladda in la helo in kalsoonidii dumisay dowlad dhexe in la helo in la dhiso inta ka horeysa federalismku in ninka meesha jooga galmudug uu madaxweyne sheegto ama kan puntland jooga madaxweyne sheegto iyo inuu governor sheegto wax ay siyaadinaysaa ma jirto it will not change anything waxaa wax bedelaya qofkaasi siyaasadda uu ku shaqaynayo ma dowladnimo soomaaliyeed ma soo yegleelaysaa ma xoojinaysaa dadka soomaalida ma isu keenaysaa ma kala durkinaysaa dadka uu joogo oo isagu madaxweynaha u yahay horumar ma gaarsiiyey ay ku weyday dowladdii centraalka ahayd oo lagu justify gareeyay meeshaan in la abuuro meeshaan markii la abuurayo waxaa lagu abuuray dowlad dhexe baa lagu jooga waan ka xumahay waan ka baxayaa waa ma rabo sunnihii cabdiwaaxid inaan annagu wada ma rabo waaye waa usoo noqonaya waxaa laga sheegtay qabiilku dhibaato male maraykanka waxa joogo nin iyo xaaskiis iyo wiilkiis hadday yidhaahdaan waxaan rabnaa hay-adaan rabnaa waa la siina laysanka laakiin waxaa lasoo diraa dad wardoona oo waxaa la fiirinaa qabiilkaad rabto ahaw dhulkan hadda waxaa degan dadka scandinavianka ka imaaday anderson iyo jameson iyo waxaas la leeyahay waa kulli dadkan waxay ka imaadeen markaad tagto ohio waxaad ugu tegaysaa dad german
Delaware iyo New Hampshire waxaad ugu tegaysaa dad Polish aad ugu tegaysaa meeshaan qabiila loo degan yahay meeshaan ka imaada Mormon hal qabiil waay aniga waxa la dhihi jiray dark fellow ninkii madooba dadka ugu horreeyaan ku jiray meesha marka muxuu ahay qabiilku dhib ma balahabo laakiin adeegga la isku soo dhaaf adduunka marka license lagu siiyo oo aad hal qabiil tihiin oo xataa hal qabiil iska laba aad hal jifa tihiin oo aad hal qoys tihiin oo license lagu siiyo albaabka lagu dhijiyo maqaayadaada waxa la rabaa qof kasta inuu gali karo dukaankaaga waxa la rabaa qof kasta inuu gali karo iskuulka muxuu ahay oo targetka la yiraahdo caruurta lagu baraa in caruurta ay isku si wax u baranayeen oo isku si aad ugu jawaabaysaa la rabaa yaa qabiilkan lagu warwareegin maaragtay qodobka kale waxa waaye qabiilka haddaad keento biri aroorti haddaad keento sidoo uu Yuusuf u sheegto canjeeradii oo cunuga aad sugto in uu subaxii koob shaah iyo hal canjeera heli karo kow oo iskoolka intuu u lugeeyo ka soo noqon karo ammaankiisa sugta labo oo qadada aad siiso hal muxuu ahay muufo iyo xoogaa yaroo maraqa aad siiso dawladdu waa loo sacbinaa laakiin haddaad tiraahdo muxuu ahay 1 milyan qof haysto oo hadhowtii qoladii aaway qorsheynta joogtay oo u qaybiso jira halkii milyan waxaan u qaybiyay 1,000 qofood oo qofkii waxa ku soo aaday $200 aad tiraahdo yacni ka waran yacni waa digaagii la sheegay oo lahay 2 qofood oo qof haafale laakiin hal qof oo cunay lama rabo saas anagu dad waxaan xirfadiyaal waxbaan dhignaa wixii waxaan u qaybinaynaa aniga shaqo ku mali 50 qof 40 sano aniga macallin lahay waxaan u dhigaa qolada aan u dhigo waa cadaan muslim male Soomaali male qof madowna male anigoo accent loon af Ingiriis xataa si fiican waa la ogolaaday sababtu maxay tahay wixii aan u sheego qofkii igu soo celiyo aniga waxa la 100% waa heshay qofkii af Ingiriis fiican ii sheego laakiin aan science aan dhigay aan keenin waxa la wadadaas waa taqaan shub marka aniga qabiilkan yaa laga cabsan qodobka kale waxa waaye sidoo wasiirku u sheegay aniga madaxweynaha ma ahayn cirkii ninka ka imaada maxay iga galaan laakiin waxaan rabaa in aad dhulka joogto oo dadku adeegto biri aroortan waxa imaana axsaaba imaanayso axsaabta markuu waxa imaanaysaa intii qof Australia joogo aniga igu hela oo saacadkiisa isoo raadin lahay oo haddana la shirshir la iman lahay waxa la rabaa markii xisbi la noqdo xisbigu wixiina loo keeno oo la beecina aan fiirinayna qofka walaalka hadduu sax yahay oo wuxuu sheega ay ku gadmaan qaado haddii laakiin qof kale oo xataa dhali ahaan aad kala fogtiin oo wax ka fiican sheega qaado marka hadda xisbiyaaba imaana cabsi ma qabno laakiin waxaan ka codsanaa xildhibaan beene akhriska koowaad iyo akhriska labaadka iyo akhriska saddexaad baarlamaanka ka sheegtaan naga dhaaf waa idin sugaynaa idinku ay sugaysaan keena muxuu ahay xisbigii fura biri aroortii qaraxa dhaca bilaad dib u dhigaysaan 2 bilood fasaxaad qaadanaysaa miyayse maxaa ka socda meesha dadkiina waa idin taagan yahay abaarta hadda imaanayso ma waxay sugaysaa 2 bilood oo fasaxa waa idin kale idin sugaa hay-addii abaarahana ma dhisno marka waxaa la rabaa keliya in la shaqeeyaa la rabaa oo wixii la dedejiyo maaragtay dalkana aad u fahamtaan in gurmad uu ku jiro oo maxaa la yidhahdaa degdeg uu ku jiro la rabo oo wixii muxuu ah la iskaashado waqti la luminayo fiir hadda nin baa waxaa leeyahay madaxweynaha la doortay bilow wuxuu sugaa inuu wasiirka koowaad raadiyo wasiirka koowaadna wuxuu sugaa wuxuu sugaa wasaaradiisa uu sugaa bilna waxaa la sugaa inuu baarlamaanka aqbalo intaad nolod waxaas ma aragtay waxaa la rabaa haddaad madaxweynenimo u sharaxan tahay dowladdii aawa oo hoosaadka shadow government wixii la dhihi jiray inay ku diyaarsan tahay haddaan guulaysto qofkaas iskale waa inaad tiraa moogta marka waqtiga ha laga faa'iido way waa maasantahay waa maasantahay professor way Yusuf haddaad rabtay inaad wax ku darto microphone-ka hortaada iyo la qaado war adigu la 3 nin oo Soomaali sheekaysanaya dhageyso waxay ka sheekaysanayaan qabiil hebel baa laga qaaday kan minaka maxaa lina siiyey maxaa ka dhacay kii kale waxa weli lagu jiraa berigii geela la kala dhici jiray ya waxaad moodaa inay geel soo dhacayaan oo qabiilka ka soo dhacayaan oo markaa kuwa kalena ka soo ceshanayaan oo marka wax halkiiba lagama gudbayaba waqtigan imika la joogo waqti qabiil ya lagu dagaalamo lamaba joogaba wadanka waxba ma yaalaanba ya marka waxa inaga maqan qabiilka ma aha ya qabiilka inaka Soomaali hadana waxa inaga weyn ya hadday la yiraahdo maanta ilaahay qabiil mid ka jeclaanaysa
mid wala ha ilaahay buu kule laakiin wuxuu u jeedaa qabiil it's true yeah marka waxay naga maqan sense of patriotism wax la yidhaahdo babaliin baba beri hore laga tagay taasiyaad bare raacday berigan oran jirnay Soomaali baan nahay oo maxaynu qabsanaay wixii oo dhan yeah marka yacni hadday dibadda joogaan nimanka Soomaaliyeed hadday gudaha joogaan yeah waxa maalin oo dhan laga sheekaysanay waa qabiil weeye horta taa waa in la joojiyaa yeah marka qabiil laga sheekaysanayana waxa laga hadlayaa problemka laga hadlayaa solution ma jiro nobody talks about the solution everyone groups ku iman jirno waanu sheekaysan jirno markaasaan debate kan la gali jiro maalinta dambe oo ay weedi waad ka aamusantay bariyan maxaa dhacay waxaan maalin walba waan isku nimaadno problemku maynu ka hadalnaa laakiin solution wax la yidhaahdo ma soo dhigna meesha marka dee waa just an exercise in maaragtay yani waa iska sheeko waxaa loo baahan yahay Soomaali inay qabiil dhaafto oo sidaan ku idin sheegayay waxa la isku haystaa waa canjeerada yar ya wadamada adduunka waxa lagu xisaabtamayaa wax la yiraahdo per capita income baa lagu xisaabtamayaa markaad production soo saarto imisa qofkiiba ku soo hagaagaysa wadamada qaar kood 24000 baa ku soo hagaagaya qofkiiba Soomaaliya hadda la yiraahdo maxaa ku soo hagaagaya minus something way noqonaysaa cidna ma gaadhayso marka waxaan laga hadlayay gobol baan sameeynaa federaal baan sameeynaa haddii aanan plan fiican loo dhisin ya oo plankii isla socdo ya waa plan simultaneous xagga security la'aan dhaqaale ma soconayo ya transparency hadduuna jirin dhaqaale ma soconayo ya haddaanan maxay ahayd economiga maaragtay sidii wax loo qaybsanaya aan la sameynin dhaqaale ma soconayo waa maran baa lagu jiraya moogta marka waxaa loo baahay nimankan baarlamaanka fadhiya ya inay wadanka maaragtay u dejiyaan plan ya plan baa loo baahan yahay ma aha kolba kii madaxweyne yimaada lacag ka qaada maaha meesha dad dhan baa idin sugaya dad dhan maanta waxaa fadhiyo iyo fadhiyo marka wayna maqlayaan message-ka naga geeya ya waxaa laydinka rabaa plan ina Soomaaliya wadanka loo dejiyo ya xagga dhaqaalihi xagga security xagga corruption-ki waxa dilay maanta Soomaaliya waa clan corruption iyo cronyism ya saddexdaas ayna la degay maxaa laga qabanayaa waa sidoo sheegay professorku hadduu qabiilkani qof walba iska dharagsan yahay ka soo qaad UAE waa qabiilo United Arab Emirates laakiin qof walba waa happy ya inakuna waxaan wali ku jirnaa mid baa bari ka sheekeeyay soorayaan in yar baan ku daray mid baa bari ka sheekeeyay cad wuxuu yidhi waxaanu dhisaynay faan noole maxay ahayd yala dhisay buu yidhi maalin baa la yeedhay marka waxaa la yidhi qabiiladii baa isku heshin waayo waxay lay naga dumi markaasuu yidhi are they kidding ma ka dhaba markaasuu waa ka dhab way ku heshin waayeen hala dumiyo yidhahdeen marka waxa weeye wax allaale waxaan ku heshiinaynaa ma jiro at the same time khayraadkii meeshuu iska yaalaa dad kale u tashanaya ya dad kale yaa u tashanaya oo meesha khayraadku ku jira seen u galaa inakiina maran uma ku jirnaa iyo qabiil maxaa kani qaadan muxuu kani qaadan waa simple plan in loo dejiyo way sharci la soo saaro sharci consultation la sameeyo gobolada marka consultation ka la sameeyo baarlamaanku baas gareeyo because baarlamaanka gobol walba uu ku jiraa ya marka yacni waa siduu sheegay professor dhaqaaqa wixii hala qabto dhinacan ayaan jecelnahay su'aalahan siina ninka odagaas microphone-ka inay siisaan jeclaan lahaa runtii Soomaaliya waxaan u baahanaa realistic la noqdo Soomaaliya laba dhib bay qabtaa waan wada ognahay kulligan dhib koowaad waa annaga dhexdeena waxaan isku hayno dhibka labaad waa dibadda waa outside interference lagu hayo iyo dad aan rabin in horumar gaarno carabaa ku jiro European baa ku jiro deriskaa ku jiro marka haddii taan gudaha aan xalino dibadda waxay ku fadhida lama arko ani waxaan qabaa turnigan aan ku raacsanahay abukaataha more ina indhaha yani okiyaalo kale la gashto beentan isu sheegan la joojiyo federalna ma anfacay my personal opinion no problem laakiin waa in dadka hor shacabka la dhex keenaa haddii wax la samayn kara sigsiga la raaco marka seen xal ku keeni karnaa first aan dhexdeena kow in horta la sameeyo reconciliation iyo wixii kaloo la samayn lahayba dadka markay istarasgareeyaan you don't give a damn who's the president of the country qabiilku waa dan kama lihid sida Yusuf sheegtay balaanna jiro ninka ordaayo inuu yiraahdo waxaana anigii qorshaha wasiiradiisu diyaar yihiin oo Soomaalnimo la isku doorto أنا مركز سكر we need nothing to do about قبيل لكن هذا ما أنت قف الدساء واحد مركز لبح يا نكاس عين اللي رابع دعكت
I don't give a damn qofku wuxuu dhahay laakiin waxaan ku wadaa horumar ma gaarin intaan qabiil ku fikirin qabiilkan ma xumo qabiil iyo qabyaalada kaliyiin diinteena ogol marka commentkayga taas waa laakiin waxaan rabaa seen aga baxanaa dhibkan oo loo keenaa xal Soomaaliyeed waqooyiga aan fiirino north in Hargeysa geedka la fadhiisin wax soo laakiin dadka waa nolol tilnay soo aashayda marka waxay tahay tan gudaha san ku xalinaa oo isugu nimaada tan haysato dibadda khaasatan xalana laga xukumaa lacagaha iyo magaciisiga dadka qaado boorsada qaada ama UN magaciisa ayaa la dhageystaa dawlad walba timido wax laga dhaxsamayso war khayraada wadankan ka buuxdo hal iscafiya hal siimaado please labada su'aal ku xawaa tan gudaha san ku xalinaa marka taas xalna dibadda wax ku dhadana marko waa maasantiin maalin dhaweyd waxaa ka dhacay London shir waxaana loo yeeray gudoomiyaashii gobolada oo dhan ama madaxweynayaashii kii la doonaba la yiraahdo waxay isku raaceen oo dhamaantood yiraahdeen waxaanu daba taagannahay madaxweyne Farmaajo isla meeshaas qaar ka mid ah waxay yiraahdeen federaalka waxaanu ka jecelnahay dawladda dhexe marka ma isleedihiin federaalka laftiisa xitaa kuwa madaxda aanay fahansaneyn waana mahadsantiin marka dhinac kastaaba inaan laba qof marka hore siino ayaan go'aansanay marka labada su'aalba ayaan ka jawaabaynaa waa mahadsantiin أنا حفيز وحن كشقيا prosecutor cases بانقرا محكمة لو يردوا cases كأي كدودان أنها قرة eligible أو أهينا بار exam كقاتل لكن سماهم المقادر dadku markay ii waramaan qofka aan dacwada ka qorayo ana isla hadlay dadkan Mareykanka fiiri behavior code wa very truthful dad ah wali maanan arkin qofku markuu ii waramayo case-ka marka qarkood asaga initiate gareyn kara in wax ku dhacaan very truthful ana marka waxaan isbaray emotion-kayga markaan wax qorayo case-ka saad u qortid saameyn bay ku leedahay sida adigu u diyaarisid judgment-iga la qaadan doono ana conscious-kayga marka isla dooday see uga dhowraa qofkaas waxa uu soo sheegayo inaan sideeda u sheego anuun emotion-kayga ku darin maxaa yeelay words-ka isticmaalaysid effect judgment ay noqon karaan memory-gayga horta u fiicnaysay word by word qofku waxa uu yiraaho inaan isbaro markaan qorayo qofka hor fadhiyo horta memory-ga caafimaad baan ka helay memory-gan ka helay conscious-kaygina inaana justice-kaas أنا أن مينس مريسا أنا هاي لكن أنا effects كويران بعدين decision كذا ضد لو الرأي جاريان أنا تاسنا إلهي هرتيس بان كلا جرمي أنا ساس أبحو وح إن هريا له يشوق قبيل إسنع معه قبيل كشلنا واجري لحدن كواجري كونتني أفريقي واجري دارود واجري هوية واجري إساق واجري دقلي مركن واجري issuegu underlying kala baa qarsoon ogaada aniga xaaskayga waa mental health ka baratay clinic bay leedahay markay dadka daaweynayso qofku waxbuu buuq buu arkayaa qof baa ay daba socda underlying kala jira there is underlying kale oo sources ah jira waxa uu qofku markaa arkaya ma ahan issuegu fiiri issue and I don't want that in media will get it dona issue qabiil in loo arka sidaan u hadlayay ma aha dalkeeni waa dumay wuxuuna ku dumay dalkeenu tabasho baa dawladnimadu waxay noogu jirtay tabasha dalkeenu daba taagnaa ilaa 60kii aadan cadda markuu yimid ilaa maalinkii maxamed siyaad dhacay dalkaanu tabashu daba taagnaa dalkaana eeduu daba taagnaa dalal ka maqnaa buu daba taagnaa cududda aynu dhisanayna kuwaasaynu dhisanay inaga dhexdeen isumaana dhisan ujeedadii waa gaari waynu jabna waana la jabiyey ciidan baa kusoo nagu soo guriga noqday iyo dawlad xoog lahaa timid iyo physically dalkeena ujeedadii u lahaa markuu gaari waayey yaana la jabiyey masku markuu waxaa la yidhahaa meel qabsanayo hadduu gaari waayo isagaa iscuna soo min anjir isagaa isgooye waxa dhacay waxa waaye as a society marka society energy bay u baahantay energy bay leedahay active waaye ma ahan stagnant ayadaa iscunaysa markay weyda outlet kale waxa hadda aan raadinaynana outlet inaynu bixino energygaas inagu dhexdeena aan isu isticmaalay inaynu outlet siino waayo
I don't think 200 dowladnimada hadda jirtaa waxay u jirtaa 500 oo nin bay u jirtaa. There is no governance. xildhibaano golo wasiiro laba janamo serviceka kale ma ii sheegi ka dhan dowladnimada shacabka Soomaaliyeed ku qabaan zero dowladna Amazon yay ilaalisaa intaasoo kun baa joogta ma shacabka Soomaaliyeed bay ilaalisaa no literally u fiirsada waxa markaa xildhibaanada oranaya hana la sii anaga security ama xildhibaan hala dila ama qof madani hala dilo qof walba is very important qof walba waa important dadkeena aniga marka waxaan qabaa fundamentally dalkeena anigu waliba hawiyaan la hadlaya waxaan oran lahaa aad u dhageysta hadalka aniga waliba waxa la igu tariyaa bro inaan ahay dadka saaxiibada ay qabiilka waxay igu tariyaa inaan ahay bro Mogadisho dadka degan laakiin they miss the point Soomaaliya ninka ugu aqal badan oo ugu muhiimsan laakiin aan criticize gareyno waa Ahmed Samantar waa is a highly sophisticated waxa uu ka hadlayna waa legitimate markuu lahaa laba qabiil baa qabsatay it was absolutely legitimate waa ku asagii baynu ku ceebayna anare waxa ma garan why he's waiting muxuu ku sugaya adiga Soomaaliya ma akharay dadka u shaqeysa haduu wuxuu ka rabay ka waay hankiis individual rights ki baa la group rights baa la abuuro wax la yiraahdo there is no individual rights qabiil baa laga hadlay laakiin anigu qabiilka aan hodaarooda individual rights ku haysta no hadayna taa gaarina dawladda is a vague waxaynu ka hadlaynaa we have to talk we have to inaynu real dadka inta la anigu xasan sheekh waxaan ku yiri markuu noogu yimid Columbus tenda dhiso katag iska dhaa fanfasigaan xamar iyo nigteeyada gidigooda wada nigteen bay qabaan xamar nigteen xamar ma u baahan tahay idinkaan weydiinaya qof xamar nigteen ma qaadan karaa qof xamar jooga kabo wallahi billahi tallahi inaan been idin sheegayn I have seen dadka u sharaftabnaa oo gaaja dishay وما صدق عبد الواحد أنا سوق كابتن شعلان الله waa soo koobaya waxaan uga baxayaa federalismku waxaan qabaa reconciliation in la bilaabo gogashana la dhigo jowhar ama la dhigo ama xamar la dhigo governance la iska daayo elderskeena iyo dadkeena iyo elitekeena teenda cadala inaynu ka dhisano oo la yiraahay halkaas arigeena aan ku qalanno la yiraahay galgaduud 500 oo neefkeen xagga hebel oo dhikeen arigeena aynu ku qalanno halkaan aan degno waana mid anigu Cabdiwali Gaas baan kula taliyay elite-ka Soomaaliyeed buu kamid ahaa Soomaaliya halkaas u horseed baan ku yiri Google dhig geed silkii hal iskugu fariisto iska dhaaf international community lacag this is false وما صدق عبد الواحد ان waayahay waxaan rabaa inaan si kooban gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay sidaan horena u sheegay kama gaaro inaan dhammaantiin su'aalaha wada siiyo martida barnaamijkana waxaan ka codsan lahaa hal su'aal oo la weydiiyay haddii ay lecture isku bedesho ama khudbad dheer isku bedesho waxay ka dhigan tahay inaan waqti ka wada faa'iideysan karinin marka waxaan idin ogolahay maadaama gabagaba barnaamijku uu marayo su'aalaha tirada yar u ogolaan doono marti sharafta barnaamijka hal daqiiqo oo kaliya inaad kaga jawaabtaan iyo wax la mid ah marka intaasaan idinka codsanayaa marti sharaftana degani muujiya barnaamijka idima kala gaaro intaan madasha fadhida inaan su'aalo siiyo marka gabdhaha ayaan siinayaa markii hore ujeedadu waxay ahayd inaan dhinac walba laba su'aalood siino marka si aan u ilaalino gabadha gadaal fadhida in microphone-ka la siiyaan jeclaan lahaa su-aashayda koowaad waxa ay ku socotaa tooniga cabdiwaaxid warsame aad baad u mahadsan tahay dhammaantiin horta aad baad u mahadsan tihiin magacayga waxaa la yidhaahdaa Hudda Ibrahim waxaan ku faraxsanahay dad badan maro badan baan ka qayb galay formayaal amaba aan marti ka noqday weli ma arkin qof deeply uga hadlaya arrintii ka dhacday Soomaaliya waxaan dareemi karaa in uu jiro open wound dadkeenana ama aqoon-yahanyaasheenana waxaad moodaa boogtii inay daboolayaan oo ina rabin inay ka hadlaan waxaan ku takhasusay reconciliationka politics of reconciliation waxaan ogahay in Germany markay xasuuqda Yuhuudda ay memorial dhigeen in ay bixiyeen compensation
in first leader uu ka soo baxay qirta dhibaatadii yuhuuddu amaba Hitler geystay Soomaali farmaajo wax badan buu ka hadlay arrinta reconciliation-ka ah marka hadalkaaga waxaan ka dhadhansaday sidaad u tiri Soomaali kuma noqon karo qabiilana aad sheegtay xagan aniga I don't care qabiil first of all gabar Soomaaliyeed baan kalaan 6 baan ku jiraa Soomaali ma ihi cid aad sheegtayna habartayba way tahay daarood so what I'm saying waxa waaye ani I don't care qabiil sidee lagu heli karaa nin ilaan waxba loo diidaa anaga nin runta sheego inta soo istaagay yiraahda xaq daradii dhacday ummaddu hadda waxaad moodaa inay only 26 sano la soo dhaafay kaliya xasuustaan dad baa aaminsan inuu siyaad bare xasuuqay let's talk runta aan ka hadalno marka waa yahay sideebaad dad baa yiri farmaajo waxa uu noqon doonaa waa in adeerkii heblow they don't want inay yani aaminaan sidee lagu soo celin karaa trustigii dumay reconciliation-ka aad ka dhawaajisay yaa samaynaya markaad adigii caawa halka yani ilinku kaaga daadatay oo aaminsan reconciliation-kii aadan soconin yaad uga tagaysiin ama kulligiin baadan weydiinaya yaa Soomaali heshiisiinaya markaad cuqaashini iyo dadkiini caqliga lahaa ee intellectual-ka isku sheegay halka everyday aad noogu sheegaysiin dhibaatadii bad aydan hore u soconin taas waa kow walaashay macaan Yusra waxaad ka hadashay kalaan corruption and colonial kalaanka iyo maxayday colonial-ka xagga iska dhig corruption-ka sidaan loo dagaalanaa sidaan raggeena Soomaaliyeed haddaysan diinta islaamka ku dhaqmaynin maxaa kaloo keeni kara how can we combat maxayday corruption-ka way hudda laba su'aalood no wait and question-ka saddexaad aan ku weydiinayna waxa waaye walaashay hablay Soomaaliyeed ama waqooyi hay ka yimaadaan ama Djibouti ka yimaadaan ama Ogaadeen ka yimaadaan meesha doonay ka yimaadaan waxa qiranahay waad u jeedaa saddex rag baad la fadhisaa every day waa sida hablaha maxaad ku encourage gareyn kartaa si ay platform-ka inta usoo fadhiistaan ay maxay ahayd uga qayb qaataan intellectual discussion-ka thank you waa mahadsantahay Huda I don't want to condone any atrocities dalka ka dhacday fiiri I came alone adduunkan qof walba anigu horta waxbaan qoraa inaad maaqana artikladayda aragteeno haddaad google garaysaan waad arkaysaan anigu waxaan focus gareeyaa governance-guna dad bay ka timaadaa dadka behavior-koodu waa wax weyn fiiri inner forces baa jira oo qarsoon oo physics-ka sida uu leh social science marka la leeyahay waxa weeye forces baa jira society u ciyaarto oo natural ah haddii laga baxo waxaas haddii maxamed saad atrocity sameeyey haddii cabdirashiid sameeyey haddii kuwa ka horreed sameeyeen waxa weeye qof kasta oo atrocity tabanaya wuxuu xaq u leeyahay inuu garbaxo however tan dhacday wixii dhacay 91kii dal dhan baa dumay fiiri qof baa la xiray iyo aniga maalin walba xira dad oo xira fiiri waa la xiraa dadka politically qofkii dalkan diidan waa la xiraa qof communism la soo istaagi karaa dalkan ma jiro soo ma ogidin waa crime dawladdu waa xiraysaa dad maxamed saad dad duqeeyay kan duqeeyay maxamed saad muxuu samayn lahaa waa la soo galay hargeysa la yimid yani I was there habeenkii dadkii anigu waan joogay habeenkii darbi baan ka booday fiiri waxaasu waxa weeye waa facts dhacay wax nolosha waxyaabaheeda dhacaysay ka mid tahay ma ahan inuu rabay ma ahan inay ahayd ma ahan dad in loola jeeday that was the fact اسنا با abuurantay tabashay ka abuurantay waxaan la xalin ba wuxuu midba mid buu furay xiriyay ala kulli xaal ana waxaan qabaa reconciliation ka perception ka jira waxay tahay dadka xamar degan furaha ayagu inay dhigaan fiiri fugaha walaalka mana ahan dambi inay galaan ayaga ruuxooda markii dal gubanaya loo dhiibay ayaga ruuxooda dalku waa gubanaya literally 91kii yeah 91kii markii maxamed saad baxay dal gubanaya USC lagu wareejiyay aniga marka waxaan qabaa war eventiska meesha ugu weyn anigu lawyer baan ahay mucudada meesha ugu weyn baa laga qabsadaa waxaan kaloo 60kii iyo mucudo weyn baa dhacdo weyn lu jabna markaas weyn lu jabna marka in la yiraahdo xamar guri issue ma ahan bear issue ma ahan this is nothing
wallaahi bilaahi tallaahi dhulkayga nin baa haya 10 jeer biro iga soo doono wallaahi inaana doonan iyo bilaahi ishugu ma ahan dhul 20 dhul dumeeye macna kan haystana macna uma leh hadda kii ka tagayna macna uma leh war dalkeeni si u soo celinaa dadkeeni this is the point dawlad waxaan arkay xasan sheekh baan ku arkay anigu aan la yaabay haddii dadku isabaabana wasiir waxaad arkaysaa koranaya qabiilku ma shiri kara haddaan aanaa dadka siyaasi u ah do you want to buy that kind of things xildhibaan baa wuxuu ku leeyahay dad war ma shiri qabiil x ma shirka anoo shirka fulan anaa qabiilka shirkiisa war dad danoodaa ka tashadeena dhaafa war dadku haysu tageen politics markay involved noqoto waxa weeye waa la kala tegayaa cabdiwaxid corruption baa tiri see looga bixi karaa su-aashaad weydiisay hore waxa weeye corruption see looga bixi karaa corruption waxaa looga bixi karaa horta markay dawladi jirto ya oo dee dadkii la haddii dhowr qof lasoo xidho oo yidhahdo waxbad xadoo la xidho way joojin lahayn mogta laakiin marka wadankii dawladdii oo dhan from top to bottom mid waliba doonaya inuu wax qaato ayaa wax xidhaya ayaa lasoo xidhaya markaa you know that's the point you know really I mean I have issue anu cidnaba personal issue midna lama leh ya qof quraad lama leh laakiin facts waa facts ya dadkiina way gaajoonayaan wixii dawladda ku jirayna they are so busy with themselves say iyagu wax u qaadan lahaayeen sida wax u samayn lahaayeen kan la rido kana laga qaado kan ummadiina wali way gaajoonaysaa marka horta taasi dawladdu waxa weeyaan inay maaragtay aad iyo aad iyo xilkii saaran yahay moogta haddii xilka ay kasoo bixi waayaanna waa wax if iyo aakhiraba lagu weydiinayo ya if iyo aakhiraba qofka anigu waxaan u haystaa qofka corruption lacag qaata corruption horta marka horeysa ilaahay ma aaminsana ya because waxaa aaminsan yahay risqiisu inuu halkan ku xidhan yahay ma aaminsan inuu risqa ilaahay keeno marka horeysa taas weeye ilaahay ma aaminsana qofkaasi hadduu wax qaadanayo waxaad qof ilaahay aaminsan maaha ya mana oga weli yani intaan istadhigaraynayay dadun wax qaadan jiray madaxweyneyaal africa ya iyo adduunkaa kaleba weli madaxweyne ka faa'iidaystay lama sheegin ya caruurtooda baabaaday waxa weeye waa sida qur-aanku sheegay uu leeyahay caruurda calooshaada dab gelinaysaa weeye marka taa xitaa ma fahamsana marka waxaad moodaa dhinacna waxaan leenahay muslim baan nahay oo gabdhaheenii baan leenahay soo isku xidhxidha oo kan oo waxaan iska dhigana niman balaayo ah ya dhinacii kalena ya diinna ma haysano iimaanna ma haysano and that's the truth ya dad muslimaan nahay moogtahay xaggee baad intood salaada u tukato maalintii oo tiraa ilaahu allahu akbar haddana dad baxaysaa oo soo xadaysaa waxaasi caqliga marka waxa weeye dawladda inay fahmaan inaan dad muslimiin nahay inay dadkii gaajaysan yihiin inay wasi qofba pointka sameynay nimankan xildhibaanada dibadda wareegaya abaar baa wadankii ka jirta priority-gu inay taasi noqoto way soo nooga sheekeynaya maanta maxay tahay xildhibaanku nooga sheekeynay priority waxa weeye horta in tan laga baxo ma aha inay dad ajnabi ku soo ururiyaan wax qof ajnabi oo dantaada doonayaana ma jiro hadday taasi qof aaminsan yahay waa fuul wey waa daqon wey ya aqalkaaga qof ku hagaajinaya ma jiro hadduu kala baaba'san yahay ya aduunba hagaajin karo gurigaaga waxa laga yaabaa inaan yaroo de ku siiyo waana yaroo bal gurigaaga laakiin aduunba og waxa ku jira meesha aduunba hagaajin kara waxa international community baa waxna siin weyday Ethiopia na soo galaysa kuwana sidan oo kale waxaasi waxa weeyaan excuse way inaka iyo maalintan toosanayna waa inaka problem ya maalintaas uu meen hor qad problemkaaga ogaato solution badraadsa moqt wali problemka inaka time ogen marka la sheekeynayo everybody waa u fiirsadaa marka sheekeeyo cabaar uma dhahdaa okay qabiilkaaga fahmay ma markaa wad garanaysaa haddana qabiilka saa uma aqaano moqt oo kuma soo korin qabiil laakiin haddana markaa wad garanaysaa regionku ka yimiday sidoo u hadlayo exactly wad garanaysaa dantii Soomaalidu way maqan tahay tiisi uu ku qof walba waa anjaradeen ku sheegay qof walba inuu yar goosto doonay anjaradana weynayno waxaan ka baxno weey khayraadka wadankeena ku jira wallahi billahi inaan haddaan ilaahay noo soo saaro wada ilaahay waxayna tuso
ya inaan dhargi lahayn gidigeen kuwa ka taga maxaa diasporadu waxay u tagaan inay lacag soo xadaan ya kuwa wadanka jooganaya haba baraba sida loo xadiyo sida loo qayqaybiyo ya waa run weyn ya bal aniga markay dadku igu yidhaahdaan qofkii uu keliya hee sidaas samaysay baa dhaha what are you talking about mu wadanka intaa leeg ya yusuf rabnaan keligeed noqotay qof tiraa war waxaas ma fiicno see u dhici karta waaba yaabanayo ya qof waliba horta waa inay soomaalinimadu ka horeysaa wax walba ya oo ilaahayna ka horeeyo oo soomaalinimadu ka horeyso taasi waa tii corruptionkan kuu sheegay waxaad tiri dumarka soomaalida maxay hayday yani dumarka soomaalida dibaddana way ku waddankana way ku dulman yihiin halkana way ku dulman yihiin ya waxa weeye hablihii nimankii saas u wada libisan yihiin dadkoodii ku dhex jiraan lama garanayo shaqay xafiis tegayaan waa ninka hadda iska socda hablihii waxaa la yidhi isxijaaba waddanka habsamaya kan shaqo markay doonato ilan waddan ajnabiyaan joognaaye ya maxaa la odhanayaa waaba da islaamiistani marka waa laga baqayaa wax shaqo lama siin haddii la siiyana shaqeero hoosaa la siinayaa ma fahamtay marka yacni waxa weeye gabdhaha nimanku waxa muhiima inay empower garayaan dumarkooda ya dumarku waxa weeye iyaga dalka dhisa lama ogeyna inaku ma ogin inay dalka dhisaan laakiin markay soo koriyaan nin fariidahoo wax bartay ya way dhiseen dalkii ya haddaad iyadii hoos u dhigto ya iyadiina inanteedii hoos usoo dhigaysaa tiina tii caruurtii hoos usoo yacni waxa weeyaan waxyaabahaas oo waxyaabaha yuhuuddu aada uga horumartay carabta weeye mogta dumarka yuhuud haddaad fadhiisato intaa waxbay u qorayaan caruurtooda haddayna laakiin ablahaagii aanad siinin couragekii iyo encouragementkii iyo siinin oo ina ka qayb waxa ina gaadhin meel walba ka qayb gali karayaan dee waddan ahaan 50% miyuu shaqayn karaa 50% waa dumar 50%na waa men so you resourceskaagii 50% baad hoos u dhigtay marka horeysa and right now waxaan u baahanay everybody ha dumar ha noqdo rag ha noqdo ya wixii wax qaban karaya waddanka ee kici karaya wax qaban karaya waa inuu qabto hortiyo muxuu ah doodiyeysan naga baahin maaragti waxay la tahay kow sida uu u sheegay xeer ilaaliyaha soo u sheegay dib u heshiisiin waa loo baahan yahay intaas horta bal naga qora annaga dadkan dood wadaaga dib u heshiisiin waa loo baahan yahay waa kow marka sida badan marka mabda'a laga heshiiyo baa farsamada loo gudbaa horta marka hore dib u heshiisiin ma loo baahan yahay haa masamayo waxaa loo batay haddii soomaaliya la kiciyey oo la kufiyey dib u heshiisiin waa loo baahan yahay haddii qofku marka uu saliim yahay oo uusan dhibaato qabin uusan isku ogeyn laakiin xataa lagu tuhunsan yahay isaga laftiisa ha ismayro oo ha sheego marka la shira laakiin dib u heshiisiin looma baahna iyo waa la isdhex maraa iyo soota la isdhex socda iyo dagaal xagee ka socda iyo waxaas yaan la boodin dib u heshiisiin waa loo baahan yahay habeen maalinna waa loo baahan yahay rab ama ha rabin waa qodobka labaad markii farsamada loo gudbo yaa dhex galaa dadkii la heshiisiinaya waxaynkaasa waxaan aragnay muxuu ahay Rwandaan aragnay wixii ka dhacay sida loo xaliyey ilaa hadda u socoto waan ognahay South African ognahay sida wax u dhaceen iyo sida wax u socdaan ognahay East Timor iyo Indonesia in la kala qaaday waan ognahay in labada Suudaan la kala qaaday waan ognahay yaa sheegay horta inaan muxuu ahay khabiirad muxuu ahay oo khilaafaadka baratay joogta meesha adiga dad waa la helayay horta waxa la rabaa inaad diyaar u tahay qodobkii muxuu ahay ii sheegay oo xiriiraleeya sheegay oo ah muqdisho furaha miiska ha saarto waa sax adiga furaha maxaa kugu dhajiyay أنا واحد حسست أنا واحد كجري دتك وكشغل environment وبصاص أنتجي بصاص الدكتور مركي كسر الدكتور باورك إسجيت كجدال اللوجي لنا الواحدة اللي قول السجوريها مركل لقى صورره وحن أركب باورك وهبينكي يهر صعده ورح جوز عطا صوتات كده ما وحول الواحدة أنا نحمر جينا حمر وين مركان جيو بان هلو تأييده محوه هاي ليريري بان كسر علنا بصاص مع عقل قصد مغشول sababta maxay tahay waxay ahayd marka waxa dhan oo loo leeyahay dalka hal la furfuro
oo adeega hala geeyo muxuu ahay miyi iyo magaalo waxa loo leeyahay waxa waaye in dadkoo dhan laga wada qayb geliyo oo maskaxda la tijaabiyo oo muruqa la tijaabiyo oo labada la isku geeyo la tijaabiyo baa laga hadlaa moogtahay waxaa laga hadlaa marka gogasha hala fidiyo hala heshiisiyo waana maqlaa xildhibaanku waana maqlaa waxaan rabaa ilka cas ma fadhiya waxaan idhi iga raallaa ilaa inaan ku sheegaan ku qasban waxaan idhi 9 sanaad xildhibaan ahayd aniga hal fikradaan qaba ma weydin waxaan idhi muxuu ahay xildhibaanu ma ku caddahay dalka Soomaaliya in la haysto mase annaga is haysano isigiyaaba ka jawaabi karo af jooga looma adeeg wuxuu yidhi annaga is haysano yidhi waxa xumaaday oo annaga naga xumaaday hadda ma waxaad leedahay wixii xumaaday annagaa xumaynay waxa toosanna annagaa toosin karno marka ilaa qofkii wax xumeeyey inuu toosin karana way caddahay ma ogtahay ilaa awoodda aad ku gaartid inaad wax xumaysona waad ku wanaajin kartaa waxay la imaanaysa waa diini oo laa taqnidu min raxmatillah intee tuugahoo markii dambe masaajidka aadaantay intee caruurtooda aasi jirtay gabdhuhu markay yihiin ayaasi jir ayagoo nool oo muxuu wala tus'aluna yawma idin can an-na'im waa lagu weydiinaa nicmad waa lagu weydiinaa yani waa la soo ogaaday qofkii wax xumayn karo inuu wax samayn karo waa la soo ogaaday laakiin waqtiga wax samayn lahaa aan la gaarin weli marka gogol ha la dhigo ha la fidiyo qof kastaba si kasta ha u sheegee yaanyo warkaas yaan la dhayilsanin way waa taasaan qaba marka horta reconciliation to some extent waa loo baahan yahay ya oo maaragtay xitaa waqooyiga maaragtay markii shirkii Boorama lagu qabtay 6 bilood iyay maaragtay host gareynayeen Boorama inay saaq heshiisiyaan waana la heshiisiyay waa laga gudbay laakiin waxa weeye maanta Soomaali qof ayna dhibaatada soo gaarin ma jirto qof walba soo gaaray dhibaato wax ka dhintay anigoo kaliya oo ka yimid Boorama laba walaalay lagu dilay xamar ma halkaasaan fadhiisanaya maanta oo dhan aan leeyahay wiya dilay daarood baa dilay stupid waqtigoodii baa galay ilaahay baa kuwa sabab uga dhigayay it's gone yeah move on well you move on you move on yeah we move on okay we have to move on from qabil whether reconciliation u baahan yahay reconciliation u baahanayn maanta heer critical and taaganahay oo wadankeenu khatar ku jiro haddii aanan degdeg loo federal system fiican loo sameynin balkanization baa ku dhacaysa Soomaaliya ya sidii balkanska Yugoslavia loo kala qaybiyay iyo kala go'aysa Soomaaliya ya marka yacni dawladda centralka ay iyo kuwa gobolada joogaba xil weyn baa saaran madaxweynayaasha meel walba inay maanta halkaan taaganahay wayna og yihiin way iska og yihiin wayna og yihiin laakiin waa uun degdeg uun wixii sense of urgency baan jirin aruda am sure inay imika isbedeshay laakiin anu xamar markaan tegay dadku waxay shaqayn jiray ilaa 12 wato dabaday soo galeen 12 waa la sheekayna waa la baxayba war halkee lagu arko wax saasa intaana lacag baa la raadinaya maalin walba xildhibaan baa banka imanaya xildhibaan hebel baa ku jooga waxaan idhi okay secretary bal maalin Wednesday ka dhig xildhibaan day haddii kama shaqayn kartid waxa inay serious u qaataan mas-uuliyadda ilaahay maanta Soomaali ka saaray ya nimanka xildhibaanada iyo nimanka dawladda haysta mas-uuliyad buu ilaahay waxani waa trust ilaahay ku dhiibay waa lagu aaminay adigu ma helin qofka kudhaana iska helay waa beentiis siraadaan ku sii ku socod gabagabada anigu su'aal ka jawaabay waxaan ka hadlayaa inaan soo gunaanada hadalkayga barnaamijka ayaan soo xireynaa marka waxaan jeclaan lahaa kelmadaha ugu dambeeya inaad noo soo afmeerto mahadsanid horta waxaan rabnaa inaan mawduucii hadalku ku saabsanaa gunaanadno aniga waxay ila tahay federalismku oo ahaa doodda aanu nimid wixii ka farcamay waa gaar tafaasiishii ka farcantay iyo meelihii lala adaaday waxaasoo dhan waa gaar laakiin aniga waxaan qabaa oo ku qanacsanahay si cilmi ugu qanacsanahay federalismku isagu mushkilad maaha waa sida annagu aan ka dhigano marka si fiican aan ka dhigano si qarankeenuna xoog u yeelanayo ummaddeena u midoobayso dadka serviceska waxa la yidhaha ama khidmaadka dadka loogu baahiyo maamulada federaalka ah xaqiiqdii waxaa la rabaa markay dowladda dhexe la xisaabtamayaan aad bay federalist u yihiin laakiin markay ayaga gudahooda joogaan waa very centralist wey aad bay awoodda isugu koobaan
marka waxaa la rabaa federalismku hadduu kor ka noqdo federalism heerkii qaran ka noqdo inuu heerka maamulkana ka noqdo federalism oo ilaa iyo degmo iyo tuulo iyo gobol dadku iyagu tashadaan haddii kale waxay noqonaysaa qabiil qabiil ka cararaya ma aha federalismku philosophical federalism maaha mid mabdi'iya maaha waa mid qabalaya taas marka waxay tahay maamul kasta inuu baahiyo xukunka talabaad waxa weeye federalismku waa inuu noqdo mid ay ka timaado maslaxadda guud ee ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka timaado iyadoo maamulkii loo baahanaya rijin ahaan oo khidmaadkii awalba looga soo cararay dowladda dhexe iyadaa wax walba haysata looga soo cararay iyadoo taas la daweynayo waa in haddana dowladnimada soomaaliyeed oo adag la helo oo aysan noqon keliya soomaaliya isfiirsanaysee ay noqoto soomaalidu soomaali caalamkii kala fiirsanaysa waayo haddii annaga keligan aan isfiirsano dowlad macalalaha soomaaliyeed soo bixi mayso haddii dowlad soomaaliyeed oo fiican soo bixi weydana wixii hadda ay sheegaysay walaasheen oo balkanizationka iyo waxaasoo dhan suuragal waay runtii haddii inta dowladuhu ay daciif noqdaan aada daciif loo noqdo meel walba qabiil eer keliya noqdo musuq maasuqu kii awal laga cararayo kale mid ka badan oo meel walba ka jiro dowlad jiri mayso hoosna waa burburaysaa korna waa burburaysaa federalismku waa inuu noqdo national federalism waa inuu waqooyigii soomaaliya waa in lagu soo daro dowladda federaalka waa in mushkilada soomaalida hadda intaa 4 muxaadaro baa meesha ka hadlayay 200 qof oo soomaaliya jooga xamar waan joognay baarlamaan baan ku jiray golaha wasiiradan ku jiray weli ma arag wax ka hadlaya soomaaliya si la soo keeno mushkilo way cadiima inta qof ku baraarugsan ma jiro with all due respect yusur waa from waxay ka timid waqooyiga ma fahamtay waqooyiga ka timid ma ay ka hadlaysa sida looga hadlayo soomaaliya si la soo keeno dhib inay arkayso ma arkayo ma aha inaadan arkayn raalli ahow muusur I'm very sorry inaan waxa weeye waxaa la doonayaa federalismku inuu noqdo mid national ah ma aha inaan iska dhigno qaran annagoo aan qaran ahayn oo qaran barkiisa waxaa koonfurta laga rabaa mas-uuliyiinteeda inay la yimaadaan tanaasul xoog leh inay la yimaadaan oo dalka lagu mideeyo qaabka uu noqonayo waa laga wada hadlaya waxa weeye waa laga wada hadlaya haddii niyad wanaagsan la isula yimaado oo dalka in la mideeyo loo qalab qaato 100 qaab oo lagu maartay arrinta lagu daaweyn karaa jiraya arrinta ah baashinka aan arkay dowladda la baashinka yani la eedeynayo la macna beedinayo runtii aniga runtii idin sheegayaa dowladdu waa jirtaa dowladdu shaqo badan bay qabatay way liidataa waa daciif laakiin wax badan bay qabatay golaha shacabku wax badan buu qabtay anigu waa ku jiro hadda oo ammaanay anaa ku jira kuma jiro laakiin wax badan buu qabtay shaqo badan buu qabtay baarlamaanku meelahan iska yaacayaa sax maaha baarlamaan caalamka ma jiro 12 bilood shaqeeya ma jiro midda kale ma jiro baarlamaan gole fuluneeda ma jiro gole fuluneed bay wadal ku leeyahay dowladda xukuumadda way xukuumad fasax qaatay miyaad maqasheen wasiirro 2 bilood maqan miyaad maqasheen iyagaa ka shaqeynaya baarlamaanku waa hay'adda sharci dejinta way 4 bilood bay fadhiyaan 2 bilood bay fasax tagaan anigu haddii haddaan awood leeyahay waxaan oran lahaa 6 shaqeeya 6 bax sababtu waxa weeye runtii sharci dejin sana bil walba ah oo shaqeyn karta oo soconaysa ma jiro waa iska sheeko way marka baarlamaanku wuu shaqeeyaa wuxuu shaqeeyaa laakiin ala xasbi qudrati waxaan rabaa inaan exception qaato runtii exception qaato morally waxa weeye aniga maxamed sidaad bare allah u naxariisto asaga diblomaasi bay uga dhigaanay he made me a diplomat as a person I liked him politically wax badan baan ku khilaafsanahay dalkana waa ka fakadaa soo madaxweynahan ka fakadaa aniga khaladaad badan baa ka dhacay dowladda militariga ahayd waayihii dambe khaladaadka la sameeyey lama difaaci karo khaladaad xoog leh ay ahaayeen qarannimadii soomaaliya dumiyey bay ahaayeen waxaa la rabaa inay waxyaalaha aan acknowledge garaynan ay ka mid noqoto reconciliation-ka bilowgiisu waxa weeye geesinimo in la yiraahdo waxaana khaldamay waxa weeye asnam hadday qabsatay hargeysa dowladduna iscasishay ahayd aragteeda inay iscasishay ahayd dowlad magaalada madaxda labaad laga qabsaday inay iscasisho wey inay cirka ka duqaysa maaha dadkii masaakiinta ahaa oo Ethiopia u galaan marka ay Ethiopia gacal moodaan oo ay maanta oo dhan marka ay leeyihiin annaga Ethiopia nabadaysay Soomaaliland soo duqaysa aqli maaha maskax maaha waxaan qabaa inaan hadda annaga koonfur ahnahay annagoo dhan oo wada soconna aan raahno
annagoo dhan baa jariimadaa gallay xataa hadday khaldanayd of course jabadihii oo dhan waa khaldanayd gidigooda waa khaldanayd SSDF baa khaldanayd USC baa khaldanayd SNM baa khaldanayd inay dal kala galaan oo dalkooda kasoo weeraraan marka oo wax si fiican loo qiimeeyo khaladaad bay ahayd dadkii bilaabay baa noo qirtay inay khaldanaayeen laakiin markay jabhad yare oo qaawan oo wada feere qaawan ay kaa qabsato magaalada madax dalka oo ay kaa qabsato waa inaad iscasishid wey haddaad adiga qof maxaan ku ama waa inaad xal kala keento oo wada hadal iyo qaab kale aad ku keento marka aniga hadda maxamed bar Allah u naxariista ma eedeynayo maxamed bar waaba jeclaa baan xaqiiqdii as a person I liked him laakiin as a leader waxa weeye wixii ka dhacay maxaan ku rahaa waqooyigu wax aad iyo aad u farxun oo khaldan bay ahayd koonfur oo dhan annagoo ahna inaan geesinimadeena yeelano wey aan dhahno dad baa waxay yidhahdaan waa run weeye gobollo badan baa atrocities ka dhaceen mudug bay ka dhaceen anigu waa mudug gobolka ka yimid bay ka dhaceen meelo badan bay ka dhaceen laakiin waa kala duwan tahay aad bay kala duwan tahay waqtiga naga dhamaada wasiir marka gabagabada waxaan ku soo gabagabeynayaa federalismku ama madaxweyne ha la sheegto ama governor ha la sheegto ama magaca lagu sheegay ha la sheego waxba yaynaan sharaysan yaanaan ku mashquulin waqti yaanaan ku dhumin waa nidaamka maanta dalku ku samaysan yahay wey wax ka bedeli karaan ma jiraan runtaa idiin sheegaya waxaa la rabaa in laga shaqeeyo sidii maslaxadda dalku uga soo bixi lahayd meel aan waxba ka soo baxayn in lagu mashquulo maaha waxaa la rabaa in xoogga la isu geeyo maslaxadda dalku se uga soo baxaysaa waxa hadda yaalla waxa weeye in dal xoog leh oo Soomaaliya la yiraahdo oo dalalka dariska iyo kuwa fogba la tartami kara in eliitka Soomaalida la isu keeno oo la walaaleeyo oo qabiilkan runtii kalam federalismkan laga saaro oo federalismku uu noqdo federalism philosophical uu noqdo in anigu aan galmudug iska sharaxi karo ama aan South West iska sharaxi karo aan xamar iska sharaxi karo laga soo dooran karo in aan aniga Puntland oo saddex gobol ah kaliya aan ku koobnahay oo haddaan ka baxo aan citizen ahayn federalism maaha waa kalanism xaqada la rabo taas weey laakiin qofkii rabaa degaya boosaas degaya qofkii rabaa baydhaba degaya qofkii rabaa cadaada degaya qofkii kismaayo degaya qofkii kala markii wadanka la isu keeno hargeysa degaya boorama degaya qofka Soomaaliga meeshuu rabo inuu degi karo oo laga dooran karo oo citizen ka noqon sida haddaad maanta Minnesota ka tagto Idaho aad u degayso aan lagu oran xagee ka timid aan la oranayn aad iyo aad oo maastan ka xumaay aadna waa mahadsantahay barnaamijka waa soo xireynaa marka xildhibaan waxaan rabaa haddaad su-aal qabto ama aad ku dari lahayd kelmado waan ku siinayaa microphone-ka marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkii maxamed faarax talyaani iyo dadkii kala soo shaqeeyey tiimkii kala soo shaqeeyey dood qaran forum inuu barnaamijka sidaan u dhaca aad u mahadsantahay maxamed panelka kasoo qayb galay aqoon-yahanada halkan fadhiyana sidoo kaleento waqtiga iyo sida articulate-ka issue maanta laga hadlayay federaalka ah aad u kala dhigteen waxaan rabaa sidoo kale qadiyadda laga hadlayay ama topic laga hadlayo oo ahaa federalismka iyo conclusionkiisa waxaan u fahmay dadkan oo maleena halkan ay ka dhargeen mushkilada inaysan ahayn formka dawladnimada la qaatay mushkilada inay annaga tahay shacabka inay tahay Soomaaliyeed iyo hogaankaba isku wada dar maxaa dhacay hogaanka iyaga naftooda dhulka duurka ma ka imaanina dadkay ka dhasheen dadka sidii yihiin un bay leaderskana noqonayaan marka mushkiladaas horta waxaa la rabaa number 1 inaan annaga aqbalno su'aal ma qabo iga comments markii aad mushkiladaas aqbashid baa adiguna xal keeni kartaa taas waa waxa aan halkan kala tagayno hoolkan oo aan ka faa'iidnay number 1 number 2 inaga waxaan kaloo rabaa inaan anu halkan markaan fadhiyo caawas xildhibaanada aad baa loo eedeeyay waan ku raaxaysanay by the way aad ugu raaxaysanay for one thing anaga anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka ama xildhibaanka waxaan wakiil ka nahay shacabka codkooda inaan maqalno ama dhaliisheena inaan maqalno wixii adinka aad aaminsantihiin inaan anaga meel geynoon ka hadalnoon xal u keenaa la rabaa marnaba ma ka cararayno waxaas laakiin hal mid ogaada anaga qudheena waxaan bedeli doono iyo waxaan samayn lahayn adinka wixin idinka aragnaa dad la xisaabtan tiro badan la imaadaana wax baan saxaynaa haddaa anagoo qash ku jirno noo sacbisaana qashkun baan kusii jiraynaa Soomaali maxamedey waxaa idin laga rabaa haddaad rabtiin baarlamaan effective inaad samaysaan horta dee isbedelka adinka idinka imaado annagana ka bacda khatar baan sii noqon doonaa waa sii fiicnaanaynaa wax baan toosinaynaa
baneliska marka dhaliilihii ay soo jeediyeen iyo wixii aan qodobo oon qaatay waxaan kula noqon doonaa inaan waxaan u qaadanaynaa inaan wax iska bedelno kor usii qaadno sii dadaalno laakiin hal mid aan rabaa inaan adinkana idinku daro soomaalida inaan wax dhaliilnimo ogiya armaad ku soo dari kartaan wixii toosinoo yaraa ama aan qabanaynay si ay annaga nafteena noo muuqdo dad 4 sano meel isku joogo wax lay ku dheerma jireen wax aan toosinay ama kuwii iga horreeyay ay toosiyeen oo aad sheegaysaan ma jirtaa tusaalaan idin sheegaya dowladda anigu hadda waxaa nala dhaariyay 28 December sa 4 bilood hadda aan jirno hal session ama hal kal fadhiya noo soo dhamaaday waxaan sameynay gudoonkii baarlamaanka waa la doortay dowladdii nationalka madaxweynihii qaranka la doortay prime ministerkii xukuumaddii issuega abaaraha ka soo qaada maantaan ugu warramay guddiga issuega abaaraha dowladda xildhibaanada hadda jiray iyo dowladda hadda jirto habeen iyo maalin kulanka iyo shaqada waxa aan ka shaqaynayno ugu badnaa waxay ahayd nolosha saameynta ugu badan oo dadku u la-aanayna abaaraha ahayd waxaa idin sheegaa baarlamaanka hay-adoon anigu ka mid ahay $651,000 aan fundraise garaynay shacabka soomaaliyeed 3 milyan 4 milyan iyo 4.20 milyan ay ahayd 4 milyan iyo bar ku dhowaad shacabka soomaaliyeed laga qaadaan dadka gaarsiinay dadka international community-ga dhaqaalihii ay keeneen wax badan dadka ma gaarin almost 600 milyan bay dhaheen inay soo gaarsiiyeen laakiin dadka ma gaarin waxaa ogaatiin dowladdan hadda 4 bilood soo jirtay dhaqaalaha iyo isku dayga jeebabka dadka shacabka wixii laga keenay iyo maamulkeeda gaarsiintoodan ka shaqaynaynay miyaysan taas ahayn wax la isku ammaani karo waxaan rabnaa marka ha nala dhaliilo wax badan ha la sheego laakiin ku dara adinkana waxyaabaha la saxay insha allah waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan ku darno waxaad samaysaan markaad dee waad seexanaysiin we have to keep you on your toes had iyo jeer soo xiro kala wada shaqaysigu waxa uu ahaa mid aad u qiimo badan isla markaana ay wax badan oo micno leh ay ka soo baxeen intii laga wada hadlay mawduucan aan caawa soo bandhignay oo ay nagala qayb galeen dad aqoon-yahan iyo siyaasiyiin isugu jira inaad noo dulqaadateen na dhegaysateen marti sharaftiina mahad gooniya ayaan idinkaga celinaya inaan su-aalo badan idin siiyo waan jeclaan lahaa laakiin waqtiga iyo duruufta barnaamijka ayaan saamaxaynin waxaan rabaa inaan sidoo kale ka cudur daarto sidaad u jeedaan forumkan ama madashaani waxa ay ka mid tahay madallada farakutiriska ah ee soomaalidu ay leedahay waxaan ugu talagalnay in dadka soomaalidu ay si yar oo furan ay uga hadlaan waxa ay tabanayaan marka waxaan ka cudur daaranayaa inaanan uga dan lahayn qabaa'ilaadka iyo shakhsiyaadka soomaalida ah ee magacyadooda la xusay inaan ku weerarno laakiin ay tahay in dadka soomaalidu ay fakarkooda isweydaarsadaan si madax bannaan oo xornimo ay ku jirtaan ay uga hadlaan barnaamijka oo ay caawa nagala qayb galeen cabdiqaadir cabdi xaashi oo ah nin xildhibaan soo noqday ahaa wasiirkii waxbarashada xukuumaddii hadda xilka bannaysay iyo tacliinta sare oo barnaamijka uga yimid Canada sidaan horeyba u sheegay waan uga mahad celinayaa inuu barnaamijka nagala soo qayb galo caawa halkan uu fakarkiisa nagula wadaago ku aadan mawduuca aan soo bandhignay sidoo kale Professor Axmed Muumin Warfaa oo ah nin aqoon-yahana oo kale intii aad dhagaysateen ka hadlay si xasaasi uga hadlay asagana waa uga mahad celinayaa inuu barnaamijka ka soo qayb galo gabadha kaliya caawa barnaamijka martida ku ahayd Yusra Abrar waa kaaga mahad celinayaa inaad caawa nala wadaagto waxaad ka aaminsan tahay mawduuca aan ku hordhignay ama su'aasha aan ku hordhignay sidoo kale waa gabar ma rabo inaan ka tago kolla xilka iyo xasaanada ay lahayd waxay ahayd gudoomiyihii bangiga dhexe ee dowladda Soomaalida sida ay sheegtayba haddana waa qof dhinaca dhaqaalaha ka shaqeeya mid ka mid ah bangiyada waaweyn la shaqeysa marka waa kaaga mahad celinayaa ninka la yiraahdo Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ah nin abukaata ah oo dhinaca sharciyada ka shaqeeya haddana sida aan sheegayba xafiiska xiraalinta ee magaalada Columbus la shaqeeya waan uga mahad celinaya inuu barnaamijka ka soo qayb galo marti sharaftiina waan idinkaga mahad celinaya caawa inaad na dhegaysataan noo timaadaan xiisaysaan mawduuca aan soo bandhignay guud ahaana intaas ayaan barnaamijka kusoo afmeerayaa barnaamijkan inta telefishinka kala socota waxaa idinkaga imaanaya gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaan caawa kaga hadlaynaa mawduuca la xiriira federalismka Soomaaliya intaan mar kale kulmi doono waan u mahad celinayaa qabanqaabiyaashii iyo kooxdii barnaamijka ka shaqeynaysa wariyaasha Deeq Daraji iyo Liibaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo